لما يترون كان يمكن دلوي الله نبغي محمد هل جبال الأمر يا مرك هذا الأمر فيري وكاسا هذا حشك اللي ساروا لقى بدو قادسي لقى بدو قادسي مرك أنت لقى جري أو أرجع لقى حري راشد والله قالي مية مع شيء سوريا قول قاسة تقني عينك وصفر الله ويجي بديني هرسيس كباحي أنا أقول الحكومة جريمة وبين شلي ولا سعود من قدومي قبيلة كوجي سمع اسكتني ما هو خبرني ما كانوا waayeel nolosha lagu gubay muuqaal argagaxlena laga duubay isagoo dhaxrafanaya dhimbilo hulcaya dad la qalay oo xubno jirkooda ah la jaray lana suray faras magaalaha tuulooyin iyo ceelal dab la qabadsiiyey oo basbeelay iyo falal kale oo maangal ahayn ayaa muujiyey in laga talaabay xeerarkii xakameynta iyo dhaqankii suubanaa waxaana dhammaan dhacdooyinkan argagaxa leh dhowaan ay ka soo ifbaxeen degmada Wallaweyn iyo deegaano ku xeeran oo dirir sokeeyay ay ka socdeen mana ahayn wax la filan karay in qarnigan ay ka dhacaan geyga Soomaaliyeed jariimo intaas leeg oo quus iyo rajabel gelinaysa malaayiin u haraadan inay arkaan dal amni ah oo ka kabtay colaadihii ahliga iyo Soomaali il ka dhigtay qabyaalada qeyrkeed ka reebtay una midowday cadowgooda diidan yagleelida qaran cudud leh geesiyaasha ciidanka xoogga dalka oo ku baxay ka jawaabida falalkan iyagoo haysta waaran maxkamadeed iyo amar ahaa in nolol iyo geeri lagu keeno dadkii ku lugta lahaa ayaa ku guuleystay inay soo qabtaan qaar ka mid ah halka kuwa kalena la baadigoobayo maanta ayaana halkan oo ah degmada Wallaweyn lagu maxkamadeynayaa eedeysanayaashan oo ay wehliyaan kuwa maqanayaal ah loona haysto dhacdooyinkii argagax lahaa marxuum Isaaq Daawud Maxamed oo ahaa 60 sano jir dhimalka ka xanuunsanayay muddo 33 sano ah ayaa ka soo fakaday guri lagu baxnaaninayay oo ku yaala Balidoogle waxaana uu gacan galay maleeshiyaad u abaabulna habbeeleed oo aana qabil u socday way xirxireen waxayna u geysteen jirdil wadareed iyagoo ku jiiday mooto nooca xamuulka qaada ah oo qaybteeda dambe ay ku xireen kadibna waxaa xigtay inay gubaan isagoo nool muuqaal ay ka duubeen ayaana la arkayay marxuumka oo la rafanayo xanuunka holaca lagu shiday jirkiisa iyo mar uu noqday lafo u ekaaday dhuxul deegaanka Dudumay oo dhaca duleedka degmada Wallaweyn ayuu faldambiyeedkan ka dhacay galabnimo Jimco ah oo ku beegnay 7 bishii 11 ee sanadkan waxaana dadkii geystay maanta nagala jooga Xasan Buulle Isaaq Daahir Muqtaar Shibow Saalax Xuseen Cali Cabdi Xamiid Cabdullaahi Siidow Axmed Saalax Abuukar Qaasim Cabdi Xasan Abuukar Yuusuf Cali Axmed Maxamed Daahir Cismaan iyo Cismaan Cabdulle Caliyow sagaalkan oo ay weheliyeen 13 kale oo maqanayaal lagu raad jooga ah aynu ku jirto haweeney lagu magacaabo Muslima Cabdi Kuusow ayaa waxaa hogaaminayay Abshir Cabdo Xasan Made Maxamed Siid Cumar Awbiime iyo Xasan Buulle Isaaq mid kasta oo ka mid ah kooxdan ka kooban 20 ka eedeysane ayaana lahaa doorar isugu jiray jirdil joorfal gubid iyo karaamo xumeyn mid dilkaas markuu dhacay oo marta wadaadkaas oo warta soo galay mar alla markii meesha loo qabanay onaga ma joogan xaafado u jirnay onagoo guri amuur taalo oo maaragta meesha ku jirn aan dhaynin gaajara la soo qabtay ku bas maloogaada meeshii aan ku soo baxnay haddaan soo baxnay wartii laga qabtay war kala la geeyay wixii oo digowtii akhyaartii oo meeshii aan ku baxnay waa tagnay isagoo marka lugaha ka xiran oo hal dagar u dhafan aan dhahanay markaan ninkan waa qabateen waxaad u diisheen inaan la qabado degmada la geeyo waa waajibkeena anaa dhaha marka saad garabkiisa saasoomida inta wajiifa marka aan qor qaarbina wata run sheeroon magta been maxay tiri lixdan saal sano jira aniga wixii runtaan ku hadlaa marka qor qaarbina garabka ugu jiray markaas la dhahay Xasan Buulow muslim haday tahay naga leeho wiila kurtuna soo tuuray mada inta ii mariyay markii saas lii maray markaan waa ka dhagaagna hadda nimankii isla imaanay dhalinyaradii kale iyo waa meeshii tuun ilmi iyo naago ama meeshii tuurihiino oo usagoo nool yahay warta dhaxdeed dhaxyaala oo moota meesha loo keen moota la saaro duurka laga dilo hal soo gubin hal laga soo baxo iyagoo isleeyihiin abartaan ka tagno mar al markii ninkaas oo ay kala aadeen duurka la aadeen ona xaafada u galnay حد إلا حد لوجو جو لحدا يا سجال سنو جرا بقولي تما فرتن وأمرا وان ودارها برتي لوجدل برتي لوجو حد الشيء مسارا إلا حد لوجو تاني سي علي لوجي واقع يا نهاية قفك نهاية والجوبة سنة لسميها يا واي أو أديك أنا كلها يو أو أنا حين ما هنا نكاس أو مرتا حافظ جوجي أو مرتا إيدن كوكمت أحاي oo adiga kulay bahbeen iyo maalin nin walba qoriisa lagu taaganay
dagaala sii socdi beerta dana beertiis waxa baday ninka gubay dhaxayo marka la makiin beerta talbakiin farsho lagu dilay marka lan walba habeen imaal qoriya ku taaganay qofka oo gubay la dhaxayo ilmaha dhaxawada yar yar ku way wajigiisina hadaan inta ka fiirina tabara way aniga hindhawa ka markay ashwiin kama darad madi usaga Abdullah Itus Hasanow ninka ma tagaana ninka ma intaan kala waa yaqaana wajigood yaa xiray oo gacmaha iyo lugaha ka xiray maya markaas uu mijoomada xaafada jaran ku lahayn markii la xiray xaafadan ku jirno markii wartaas biyaha laga wado yaa soo xiro keen horta ninkii soo xiray inkii marta war ka maxay laakiin nin la yiraahdo abshar madax oo ciidamada guud u ahay meesha joogay marka ninkii oo marka ilmihii iyo ciidamadii meesha joogeen kale isay baxeen marka anaga warka maxayna xaafadan ka baxnay nin gaajal soo qabtay beesha sal waxa la meeshii aadna hadii aynin waan hadii bilaayada noqosad waan ka soo laabanay marka imaanayda yaa kula socdaaday aniga waxa ila socdo markaas laba qofood oo heer koofur ah oo dugoow ah nimadaas qofood dhinacaan la istaagay dadka bulshada aan ninka dhax galay ana war muslimatihiin ka leehada yaa war ka diiday marka nimanka warka diideen nimanka hadda oo maqon way magacood ninka warka iga diiday Maxamed Said Umar Allah raadiga biimu kulama oo ku maqlay oo ishal gamay markay biliisha gaman waa ka tagnay marka Maxamed Said Umar muxuu ahaa madax ma ahaa dad maya dhash ciidamada ku tirsanay ninkaas ciidanka ku tirsan yahay iyaalka meesha jibeen oo korweerdi oo ku jiraaw ku tirsan yahay maayan usoo nabadoon iyo waasna ma intii ninka la dilay la garaacay waa taaganta intii dishay daraad markii ninkan ay tusiyay Abdul Isaaq ay tusiyay saddexdaan qofood waa u jeeda waa ka saabadhay laakiin nimankan kale ma ka saay midka toolid ku dhufanaay oo gilga usagoo nool boqol waa taagnay boqol ur waa taalmeesh oo dhalinyaro leh ana hadii hinda li guri uruma baaq oo kaarbina wata waa ka dhaxbay marka irida ka baxay marka adiga goob jooga aheed kamera ku qabatay sax ayad marxuum koodii ka daayo ayad hortiisa taagnay koo bariimida mas markii anaga tagaayo oo nimanka waryaalkaas meesha taagnaayeen markii qoryaha meesha taagnaayeen koo markii ninkaas markii la keenay warta ma lagu soo banawso on xaafad ku soo baxan warta uu imaad warti usoo ka jiro camera lagu duubay markay aad faanyaa iyagoo saan loo dhooman yahay markaas aan dhax galiyo waryaa muslimtiin gadaal oo bax anoo daba qaylinayo markaas la waryaa ka dhax baan adiga goobtaas dadka taagnaay ma taqaan ninkii oo ku dhifanay dhagax oo ushuk dagar ku dhifanaya maya marka ku malagu siin meesh warta oo ko bariim soo galaayo lagu soo dakhray u sugno marka warta biyaha ku jiro lagu soo dakhray war kala faarq ay ligeyno una warta faarq ugu tan soo dakhirkiisa dhiigay oo lugaha iyo gacmaha saan uga xiran aan uga tagno marka soo saan dhal iyo bilaan meel joogsan aan leeyahay siliska ku xiran ee gacanta ninka ku haya magaciis Umar isgo maamul Maxamed masaarta ninka ku falaan masaarta ninkaas waxa lagu soo dhufada xigga sal lagu soo dhiftay warta kala way oo ko bari meeshii una xaafada ku jiran kulaano oo soo dhiigiisa ba ayaa u tagno markii inta markii oo meeshii ka gubayeen oo daraad oo ninkan itusiin waa isku meelkii isku soo baxeen marxuumka mootama lagu jiiday maya oo ma lagu jiiday moota la saaro usugo oo moota la saaray usugo nool amood ku ridideen waa la baxeen marka boodka afkiisa la saabad ordaaskii la tageen on markaas inta soo aadaba warka ma hayo laakiin daraad madiinka ay tusi cunug waaliqana hada madaxiisa iyo wajigiisa dhabarkiisa ayuu soo jeeday ninka walka saayay marka hal mar saay soo fiiri markaas widaadkan oo hadda basiin jiro saldhig siin rogo manuur goobe wiilkiis waa dhahay marka kan oo tooreysa u dhufanayna liiwaan sheeno waa wajigiis usoo kan dhaga ku dhufanayn waxa la dhahaa soo dhaha magaciisa ay ma qontay naanaystiisa abaka daawid la yaa gubay dabka yaa ku shiday maya allah dabkaas ma sheekar dabka iyo dirkiis usoo naftiisa ku jiro labada dirkiis iyo dabka allah ka loo waan dhaara aniga waxa ku dhafat aniga allah nabay muhammad ana meesha u tagay markii bilaan isku aan ka soo laabtay allah nabay maad waxa soo gaan man wax gudu oo masaakiina meesha sal laga yahay allah nabay 114 marataas kutaab jama ku taagsana ina aan farq marxuumkaas farq gacan aniga leesan u tagin am qur'an leesan ugu taagin qorgay garabkay ugu jiro waan ka laabtay taas intaas 114 ugu mara
هو كل صعد حيكون لفتين war nimankan isoo aan dad ma aqyaar ahayn gadaali aan dad hadii la sii kuuri wada naqan leey marka laad ayaal oo yar yar oo nimankan idood iyo meesha u tayn ay balaan الله هيك أن نبيك محمد ميل أن روجي مرحوم كاس جانتيس كركي هدي أن ديرت كتاب كل أمرسوي الله هيك أن نبيك محمد مجد جوب جو ما هاد مركي كو أن روجي ميل روجي أنا مش وجو أنا جانتيس إن كتابنا ما يقعد هذا ما تابع لكن أولى كل شيء الله هيك أن نبيك محمد أنا كرشين تابن تاسا كتاب إلى قاع مهما تحرت قاع مهما تحرت الله هيك أن نبيك محمد أنا كرشين أن تابن يا كتاب كمله هذيك قربوت ها على شو عود يا سوق بتمرحوم كور الله هيك أن أن ميلاس لك هاي سيد كسيد معن إدي سوق وقت أن الله هيك هل كاد جوب جو كأهيد قف مسلم هل لجود دليل ولجود جوبي أدونا جوب جو قد هيد كاميرا ذاك سوق هذا أدونا كين المرحوم كأوضة سوق بن يا سوق بتنشط مركز أنا متجون سو لهاي الميل أنا أتجا معن متجون مركز متجوك تبع نتاس أنا موتيري هاي موت جاري أموتي مش صار بوه تجي موتدا إنك كوجي ده ميت كأديك مين مايا تي معها ميت كم موتدا لما سعرنا مرحوم مايا هنا جب أنا يجي هذه موت ده إنسان هل موت اللي جوك تبون هل موت أنا موت أنا هو تمشي تجي مركز وانا ولاي سؤال دت بدأ مش جو مركز ثاني وفيري كيف أسوء أنت كفكسنا هنا صار تاس بدأ أركب مركز أنا وسولات موت ده سويت موتدا موت جدودنا متى موت جدودن وكنواك هو يقول موت ده كنواك هو كنواك ميت كم مركب مسارته اللي يقول دفاعي يركب كل دفاعي متى ورث تام أو بيها ما تنقل مركنو إذا نبوها ماشان تجي أفكار أو سان مركن يجلس إنك صودا أركي ما بصو فيري وما بصو لا بتلعن سيلا يلوك هرب صو باي ماشي لودي ماشي موتر ساراي إلى يلوك ما أركن لوك تما قعنة مركب كيس مايا أنت اللي دعواك فول بس ماشي لك جو ماشي لك مساروي دمبغاس عنيد من اللي إلى إسرائيل معلم ديميد أي أنت مسلمين أحد التلفون يدير معلم كان ماشي يا سيد أن كان مسار كله فديري ده دمبغاس أنا أنت اللي قاد ماشي حاك صوت أنت بيتك ماشي لوك مساعد الجمعة وهايتي خد بيها الجيري يوم ماشي تورين يوم ماشي أجمر يوم تورين طاوين محاول ماشي أننا ماشي نشان سانواي بالعان يودل سدبلت رورايان وأردايان ومايان أرميش محاول ماشي ما يجري إن مسلم يفوت آفا ديت إلهي قبصدا كل شيء دم بالعانتي برر لي برلين راوي لما قالكي كل إن يرتي الدودان ماشي الدودان ماشي أقول آفا ما حاطوك علوي إذا دتك دبعتها أي كوسة ما يعني مسلم ديوات كذا مجيلك إلى بالعانتي بقي المهي يوكوي كل وبرر أنت وربني تعال نقد مسلم إلهي لن ديت إني هتقول ما مسلم وسكول آفا قانتي والمكجيسين مسلمكم فرحكم مرا بالعانتي بتبرر المجلك إن يرتي كل تبرر لي واي أنا دي صار مساعد كي يسكو يوم مشي توري مسجد كانوا يسكو بقى جماعة هايتي صلاة هايتي واحد قانتين جيسن دبوا بقولي من أفرت إلا ميركز إلا عن هاد أردين قبل ندين بري أرديت بشيء معلم واي لم مسلم هاد جودا معيو ديت هاد جودا يعني ديت كوبها مسلم ما ساسك كوبها يعني هاد مسلم هاد جودا وكان حفيزك xiraalinta ciidamada qalabka sida oo maxdarkan ku soo bandhigay wixii maalintaasi dhacay dadkii ku lugta lahaa iyo kaalinta mid kasta uu ku lahaa ninkii waa soo xirxireen asoo xirxiran ee waxay keensadeen tuulada Dumay ninkaasi falka foosho xun ee loo geysan doono maxkamadda u soo bandhigaya ayadoo muuqaala iyo ayadoo sawirro ah sawirrada prestation-kan ka sameeyay waxaan ka soo qaaday nin walba oo eedeen loogu jiro ama makana ha ahaado ama goobjooga ha ahaado sawirrada aan soo bandhigi doono intaas isugu jiraan macnaha nin aan falka geysanin sawir aan kama soo qaadin nin walba oo sawiradiisa inta aad ku aragtaan falkoo qayb ka ahaa yanka waa markii koowaad ay soo qabanayaan soo qabteen gabadha saas oo xeer fadhiiso ninna waa kala caadi oo qori ku haya mid qori ku haya waa oo biimo waa kana waa garaacay sawirka dhexe waxa ka muuqdo geeskan sawirka dhexe waxa waaye oo biime iyo ninkii Xasan Buulo waay sawirada ayadoo nadiifa ayadoo muuqaalan shidi doona Xasan Buule Barrow iyo maxaa la hayaa afshir inta muuqaalada waa laga arkayaa sawirada way ku wada jiraan sawirka ayaa waa Abbas Eeno Maamo waay dhagax ayuu soo qaatay waa ka dhagax asagoo soo kala taagsanayo iyo ku dhufan raba marxuumka halkaas yaalo
ninkaas halkaas yaallo oo tabarta aanan haynin oo la garaacay la jir dilay gacanu saxata hataa hal gacan hataa ma nuuxin karo dhagax weyn ala soo qaatay madaxa looga sii deynaya dhagaxi waa kana sawirka koowaad asoo sii kala deenayo dhag waa kana asoo madaxiisa ku dhacay sawirka labaad ku soo qaadnay hal ninoo danqada hataa kuma jiro macallin dugsiga ahayuu leeyahay hadda ninkaas quraan wuxuu ku leeyahay masaajida waxaan ka soo akhrinayo ku leeyahay khudbadii jimcada dhiig muslim ah ayaa hortiisa lagu daadinaya yac kama dhahooyo inta qof oo meesha taagan qalqiga taagan meesha waa soo bandhigayaayo hal qof oo yac ka dhahay malaha qof islaam ah waay qof kala dilooy war nin gaal hadii xataa saas loo dilaayo inaad ka celisaa waajib ku ah mudul gudoomiye ninkaas hadda dhagax markuu ku dhuftay kadib ninka ag taagana tooreeyo gacanta ku wataa qortaas oo kaga bireena fiiriye waa kaasa horta isagoo tooreeyda gacanta ku haayo tooreeyda waa dhaldhalaalaysa mujida markaana waa kaas halkaas dhunta oo kaga qabtay oo kaga bireey magaciis liibaan abikar umar allaha waa la yaqaanaa shacab waa degmadu degay maamulka degmadu waa kuwana lama soo qaban inuu dhagaxaas weyn ninka ku dhufto waaye liibaashiinane tooreeyda ninka ku bireey waa foolxumada meeshaas ka dhacaysa gudoomiye fiir ma daga ninkaas ma iska caawin kariyaa maya wax ka dhicinay ma lahan intaanba goobjoog ah nin walba waxba ku dhuftay marxuumkaas ajir in loo helayo amal mataqaanaadi ninka waa meeday uu yaalaay ma laga dhaaf foolxumada ajir in laga helayo amal ninka darbaaxa ku dhuftay ajir inuu ka helayo aalo kala orday wax kala soo bandhigi doonaani niman mootaalayaal meeshan ku jiray waxba ma geysan hadda dhahayaan mootadii ku jiidayaan waa tana mootada saddex lugooleeda ah waxa lagu jiidayaa marxuum isaaq daawud muxuu halay waaba nin xanuunsan waa dhimarka la wax uu halay mala shacab waay guriyo ka soo fakaday moota lagu jiidayaa mudan gudoomiye fiiri mootadii askale labadaasna leh in dhinac laga soo qaado ilaa dhinac kale dhinac lagu dili doono lagu dhameystiri doono lagu gubi doono lagu geenayo jiitaan dhulka lagu jiido wax ka dhicin mala waxa daba cararaya u jeedid waa tuuladii oo dhan nin walba wuxuu wataa wixii uu ku dhufan lahaa wataa xanuunka fiir gudoomiye ee leedahay qof walba bal asaga iska soo qaado booska isaaq daawud uu ku jiray qof walba xanuunka ee leedahay asaga iska soo qaado baa mari lahaa oo lugtana ka xirnaa lahaa gacmana ka xirnaa lahaa wuxuu uu dareemi lahaa wada dareeno okay lama jiidin hadii la dhaho oo mootada laguma jiidin hadii la dhaho muuqaalkaana shidaani waa nool yahay lugta laga xiray mooto lagu jiidaya meesha lagu dhameystiri lahaa dadweynaha ugu badin ay joogan aa la geenaya mudan gudoomiye xasan buule wuxuu sheegay waxaan dhahay amal maamulka lagu wareejiyo qoryo wata asaas soo qabtay ma ku wareejiyo maamulku soo qaban kara ninku uu keeni kara taliyaas lagu wareeji kara ninkaana la soo qabtay labada dhinac waa isdagaashan yihiin oo kala badbaado u dhigi karay ma sameenin wuxuu raadinayay cid kale oo ku soo dabaxta uu raadinayay wariya walaalka sheeg nambarkiisa ninka dhahay waa kana waa xasan buulo waa ninka dhahay walaalka sheeg oo magaciis hebel hebel la dhahaa nambarkiisa sheeg nin waalan waa nambar xuquuqi nambar aha وآموسا نمبر مية قائمة قانون له وعلى قراعة وعلى جردلة توريا لو رفنا إلا بنزينك أساق شوي بنزينك حسنا كشوي ولو جوانيك أوكي مقال كان مركم هو عدنا مرحوم كالله أمنا حريسته إلا جدي وعدنا محلي إني منك وكنا أسوق نوع على جدوى وحكوا دلنا بنانك إلا دلوا بالقرشين inuu noolaado ma la qorsheenba ninkan garbaha hadda haayo oo garbacadaha ee ninka xirxirayo daahir waa ninkaas sawirka labaad ninka dharka cad wato ee madaxa cad leh yaa waay xasan buulo waay ma taagneen meesha ninka lagu garaacayo meesha lagu jirdilayo kulay waa beentiis waa kana gudoomiye sawirkaas u jeedaan ninka qoriga wato timaha cad leh shaalka cad wato macabuusta wato yaa waay annaga ma sawirno meesha ku dhajinay may fiidiyoogan ka dhax sawirnay waa kana xasan buulo waay ninka xiro yaa waay saaxiibkiis waay qorta inta laga saara haraati xasan buulo yaa xooga dhii waay ma ka dhahayo sababtoo inay dilaan waa ugu tala galeen inay dilaan waxa bad ku dhuftaan maaha inay jarjaraan ugu tala galeen waana jarjareen yaa waay meeshaan sawirkan waxa taagan golay shuurada taagan golihii shuurada meeshan fadhiis yaa waay ninkan madaxa cad leh oo saan u jeedo arkoosiin waa xasan buulo waay ninka halkaas fadhiya ee dharka madow wata yaa waay talihii ciidankan waay abshira meesha fadhiyo ninkan ku xigeenkiisa waay markaan wareysiga ku socdo ninkan nafta ka bixi rabto wareysi ku socota
sheeg waa markii la leeyahay walaalkaa sheeg magaciis hebel hebel allah telefoon numberkaaga sheeg yaa wareysanoy ninkaana wareysanoy ilaahay wuxuu xaaraantinmay dhiigga qofka dhiigga bini'aadamka ilaahay wuu xaaraantinmay laakiin kuwa waa banaysteen inuu gudoomiye ninkaan dhiig baxa ay mujada labada lugood ka xiran xanuunsan dhimirka laga haayo oo haddana la wareysanayo leeyahay wariyaa sheeg muku dilaynay noo sheeg walaalka telefoonkiisa saasoo leeyahay saasoo u hadlooyaa codkiisa aad tusnaa shabaabku maxay dhaamaan dadka ka sameeyaan midna gudoomiye waa isku mid shabaabkan waa bireey kanna waa gubaa kanna waa bireele waa bireey gudihi hadan ugu sii daray abshira fadhiyo hogaamiye ah xasan buula fadhiyo oo ku xigeenka ah barrow xuseena fadhiyo umar isgowa fadhiyo obima fadhiyo abakay daauda fadhiyo mansuura fadhiyo aadeya fadhiyo maxamuud cabdullaahi fadhiyo yusuf abukaya fadhiyo kulli waa fadhiyaan meeshaan waxaa laga shuurayn lahaa habkii loo jarjari lahaa loo gubi lahaa laga shuurayn waa mudul gudoomiye ilaahan kugu dheershay islaamnimada inta taala waa kana markaan sawirkan waxay cadeynaysaa in dilkiisa la qorsheeyay laga soo midoobay lagu tashtay sidii la sameyn lahaa maxaa la sameeyay ood la soo qaatay mudul gudoomiye fiir ood la soo qaatay waa la dul saaray marxuumkii baasiino ku shubay xasan buule kadibna taraqa la qabadsiiyey yaa taraqa qabadsiiyey cadi fitax guduudo waa qabadsiiyey taraqa waa maqay nasiib xun lama soo qaban nimankii soo qaban lahaa ayaga difaacay maxaa soo qabanaa cadi guduudo yaa waay ninka muuqaalka duuwaay hal gubo dhahay hal gubo oo dhinaciisa gubay waay cadi guduudo waxaan muuqaalaha oo raad xumaha ninka duubay asaga waay ninka baraha bulshada soo dhigay asaga waay dadka adduunka jooga markayna fiirsanaa marka maxay arkayaan soomaalida kale wadanka ka maqan maxay arkaan war soomaalida kale xataa ku nool Soomaaliya dhaxdiis maxay arkaan foolxumada dhacaysa la arkaa wallahi raali kama nihin ilaahay raali kama nihin ilaahay dhiig muslimka meesha lagu daa raali kama nihin anaga waa dulmi waxa la sameeyo inta gudoomiye waa wax foolxuma ugu waa inay Soomaaliya ka dhacdo wali ma dhicin gabadha noo eedeysan gabadha muslimo aan lahaa waxay ku eedeysan tahay meedkii suurad xumeyn meed maxaa meeshaan maxaa ka soo haray hadda waxaa ka soo haray dambasti iyo lafalafihii marxuumka soo haray waa la karsaday mudul gudoomiye sida malaay camal loo dubto mudul gudoomiye marxuumka intaas ka soo hartay inta ka soo hartay ee qori soo qaatay markaas dabada ka gelisay qori dabada saal Allah uu uraaya camal dabadiis ha uraay ninka waa dubatay xaaba ku haray mudul gudoomiye muslimu hubaysan tahay ma hubaysan wal soo qaban karaa lama soo qaban because tol ahaan فالحمد ما يشان كذا على المسلمين وحنا سمينا اسمه مقال كذا صوب بندقة مدير قدومي ولا سوق بنكرة ما لا سوق بنول مقال كان محل وأركا أو بيم والوأركايا بر والوأركايا داهر والوأركايا حسن بول والوأركايا مقال كان انت عليك معنا هذا نيك كمان أيو داهر وا قرقي سوى تواكس قرقي قفوا ديبنا يا حرق وسوق بسرعة وسكوت الحين وسكوت جايبنا كان أو بيم وسجدوا أو فنان جدود كوتو nin waa kaas uu ku istaaga fiir mudul gudoomiye laga qabanayo xasan buule meesha waa taageen waa la haraantino ya fiir mudul gudoomiye ma taagnin inuu yiri meesha lagu soo qabto kana be xasan buule kana wuu hogaaminayo be asaga hogaaminayo qabta dhahoy abshir meeshaan laga dhooya taliya war taliya aan ka amar sugno waa kaas abshir waa taagay asagana mudul gudoomiye niman la yaqaan Soomaa muuqaalka ana sheegoy ana sharaxoy be oo biim waa kaasa abshir waa kaasa xasan buule waa kaasa daahir waa kaasa برو وكاسا كل جود وكاسا مدير قدومي انتاس أنا حتى شيء هو وأكع قوس المقالة هذا رجع ماشان أمني كعها سأفهم وين يعني وكان هذا ولا جراعه يا مقالك نجح اللي قلنا فناي أو توريد اللي قلنا فناي أو اللي جواي مدير قدومي واحد في سكر معها نكان ما راح أقول دوبن تياوا أك معلك هو معلم دكسية هاي مساجد كان قطبت كسو آخري ماشي وتاجي فير وكدل دانتيناي مرحومكي وكدل دانتينو يا نكاس عمامه وتو اسغوا هلا فيري واك اسو markii hadda uu toota wajida wala garaacu fiir ninka la garaacu ya day waa lagu dul daanteeno mudul gudoomi fiir macallinka la sheego uu ku dul daanteeno fiir mudul gudoomi ilaahay ku dharshay fiir marka hadda dhagax la soo qaadana fiir waa kana dhagax fiir nash madaxu ugu dhufta fiir mudul gudoomi koo kala tooriyo soo qaatay liibaasheene معلك وادانتينو يا مكا علينو يا واكا علينو إلاك عبسان دهو يلقولها بيان واي دينعيسو كدانتينو يا واكا نابي هل قبال الأمر يا مركا هدا الأمر فيري واكا هدا حشك اللي سارو يا والقوة يا مدن قدومي كان هدا أني أقون صناعي ما ضد الأقون سوينا يا
ما ضل سوق من كرنا وأكون هفت قار ولا سوق قبتي ثلاثة اللي بكم هتسيء أمانه كمدين ثلاثة اللي يدلعسين إنه دلعسين وكمدين من القدومي لقتي زمان عشان تعالوا الجري مسار سوي اللي وجود على الجري مسار وحفل كاس جيستي من القدومي فول حمد قارنا وأكوانا قارن مجال كجرا ولي ومقيين وارن كود محكمة الواسوجرني أمر سوق بشيء استاني ما كسرت adeerka marxuumka la gubay ayaa garsoorka garmaqalkan ugu waramay ma nin fayaabo ahay mase nin jirano ah nin jirino ahay oo madax loogu jiro ima soo jiraya 33 sano jiriye oo xirnay waa naga dhumay awo naga dhaxay oo naga aan weyni maalinta kala gooyni maalinta kala 10 saac markii leeyahay saaq daawud leeyahay gareeya lagu dili yadri hooyaraadish hormaad maqashan ninkii waa la dilay 10 saac oo galabtii maqalna oo jimca ميديا لقى سودي نكاس ما يشتغل كل نت ساس أنا الله ساس أكون مغلي صدق سنة أجري سو صدق هذا مدح الله أجري yuusuf aadan xuseen suuley waa xubin horey uga tirsanaa qawaariista haddana ah qabqabla dagaal isaga iyo maleeshiyaad uu hogaaminayay oo dhammaan maqanayaal lagu daba jira ah ayna ka mid yihiin cabdulaahi madyarow ismaaciil maxamed abuukar sayid cali cabdalla cali maadey iyo maxamed aadan ibraahim nuunow ayaa 27kii bishii sagaalaad ee sanadkan u baxay argoosi qabiil waxayna isku ekeysiiyeen qawaariista afka ayayna ku xirteen cimaamado si aan loo aqoonsan iyagoo u tegay xoolo dhaqato biyo ka dhaaminayay warta cismaan oo qiyaastii 18 kiiloomitir u jirta degmada Walaweyn balse mid ka mid ah dadkii ay u tageen ayaa aqoonsaday markii la ogaaday inay dhagar damacsan yihiin uuna fashilmay qorshahoodii afduubka ayay ku fureen dadkii warta ku sugnaa xabado sababay dhimashada 12 qof iyo dhaawaca 7 kale suulay sawirkan waa sawirka hadda soo bandhigay sawirkan hadda soo bandhigay wuxuu hor taagay hadda taliyaha daraawishta sawirka halkaas sawir laga hayaa asagna suulay asaga iyo nimanka la yiraahdo Cabdulaahi Madyarow iyo Ismaaciil Mad Abuukar iyo Sayid Cali iyo Cali Maadey waaran maxkamadeeda u jaran fal dambiyeedkii ka dhacay Walaweyn ee lagu laayay 12 qof ee ku dhimatay 7 qofna ee ku dhaawacantay ninkana geystay suulay geystay mudul gudoomiye adigoo taliye ah oo xil haayo oo amniga magaalada qaabilsan ninkaas maleeshiyada ah oo duurkaas ku jiro hadaa ka cabsid karo dhaad suulay dil geystay ka cabsid oo kala warwareegtay suulaygan mujrimka ah ee duurka ku jiro ee dadka laaynayo ee foolxumada geystay fiir 12 qof oo dad shacab ah oo hal qori aan wadanin oo meesha la yiraahdo war biyaah siinaayo xoolahooda ayuu isku soo aadiyay kaalay yiri shabaab oo isaga dhigay marka horena shabaab oo ahaa suulay mudul gudoomiye suulay maxkamadda hadda horteeda waxa laga sheegay in al-shabaab uu ka imaaday waa is soo dhiibo yiri beedhaba la geeyay wuxuu soo maray dhaqan celin asbaabta uu isku soo dhiibay maxay ahayd in la fahmaan raba argagixisada waxay adeegsanayaan taatikooyin badan adeegsadaan nin argagixisa ah oo halis ah waxa la isdhib ayaga soo dhahay isdhib markuu isdhiibo waxa ay damacsan yihiin ka badan ninkan waa is soo dhiibay waa soo baxay Walaweyn la imaaday 12 qof la laayay maxaa laga leeyahay markuu jeedka laga leeyahay maxay tahay Walaweyn amniye noqotay nabad iyo barwaaqo noqotay intaas dhibayso in dadkii isku dhuftaan raba qabiiladii in la fahmaan raba saraakiil la darajo la iska wata ma la fahmayo waa yimid ninkan 12 qof oo dilay waa la difaacayaaba ilaahay kugu dhaarjay mudul gudoomiye fiir 12 qof oo dilay ma naqaana waxa dilay alule wallahi billahi talla wal ogyahay inuu dilay asaga waa baxsaday waa la raadiyay fiir waa baxsaday uu ka dhuuntay inta meel walba uu taliyaha saldhig uu ku weeraray oo loogu sheegay uu ku weeraray dad kale ka soo qabta oo ninka waa ka baxsadaa way uu baxsan waay ninka waa la shaqeyn waay waa loo sheegaya ka baxsan leemesh mudana gudoomiye suulay al-shabaab waaye waxa meeshaan ka dhacay ee dagaalada dambe ee dhacay ee foolxumada dambe ee jarjaridda gubinta asaa mas'uuliyadeeda leh mudana gudoomiye in la fahmaa fiican 12 qof markuu asaga dilay 7 kalena uu dhaawacay wixii ka dambeeyay musalsal noqotay inta wax sameynay yaa sababteeda leh ninkii sababteeda leh hadii qabiil ahaan lagu difaacay ka mudana gudoomiye dad mas'uuliyiin ah difaacayaan hadana mudana gudoomiye ninkaas waarana u jaran mudana gudoomiye asaga iyo maleeshiyaadkaas uu hogaaminayaba waaran maxkamadeeda u jaran laamaha amniga meesha ku arkaan way ku toogan karaan isdhiiba la leeyahay haduu isdhiibo waa la toogan karaa dhigiis xalaal waay waa kaasa mudana gudoomiye maxkamadan hadda waxa ka codsan doona inay xukunkiisa xataa soo saarto waaran kariiba aan loogu ekeeninba ninkaas waa suulay iyo maleeshiyaadka uu hogaaminayo ninkan afshir lahaa
suulay markii dadkii uu isku diray dadkii meeshaan wada deganaa markuu isku diray wuu dhuntay xilka ninkaan u sii dhiibtay ninkaan hadda xilka ku sima ka abshir meesha ninka lagu gubaayo asagaa amray muuqaala soo bandhiga wariyaa taliyaha aan ka amar sugnaa leh taliyaha aan ka war sugno ninkaan wixii lagu sameyn lahaa taliyaha aan ka war sugno ayuu leh yaa waa taliyaha abshir waa ninkaan markaa suulay ma joogaa meesha ma joogo suulay ma joogo markaan wixii ka dambeeyey suulay 12 nin markuu dilay oo 7dana dhaawacay mishinkiisa uu fuliyey laba dhinac inuu isku diro rabuun isku diray dadaaba u heelinay wili oo dhahayaan anaga wax geesta ma naqaano sababta suulay habka uu isticmaalay taatikada uu isticmaalay maxaa waaye gafuur duub oo awalba ka yimid gafuur duubta iska dhigay gafuur duubkii oo ka tirsan yahay ilaa nimankii uu laaynaayay kulligood ma wada laaynin dadaa nool dada dhaawacmay dadkiyaa sheegay oo dhahe ninkaas waa ninkan dilay waa aragnay wejigiisa markaasaa la qarinaya mudane guddoomiye markaasaa la difaacaya mudane guddoomiye hadda falkaan waxa geystay oo gubidda ah ninkaana ka mas-uula abshir intaana waa dadkii u shaqeynaya maleeshiyaadka u shaqeynaysa waa nin waa gubay nin waa jarjaray nin waa tooreeyey nin waa duubay nin waa jiiday mid ka mid ah ehelada dadkii lagu xasuuqay warta cismaan ayaa fadhigan ku sharaxay sida ay wax u dhaceen xilligaasi waxaa dhibana ka ahay nuur cabdi cali maxaa isku tihiin ilma adeeraannahay yaa dilay ninkan waxaa dilay beesha reer hubeer war halkaas ku taalaa lagu dilay dhowr ruux dad oo warta lagu laayo ku jiro xoolo dhaqatee iyagoo xoolo shubanaya la dilay iyagoo xoolo shubanaya xoolo soo aroorsaday warta iska cabaaya maalin tahay inta looga yimid maamul la iskaga dhigay indhaha loo duubtay lagu dilay mise ahayn dhowr ruux ay ahayn dadka oo warta xoolo shubanaya dadka dilay oo magacyadooda ah haysid qaabka meesha ay ku imaadeen adi sida wax u dhaceen maxkamadda u sharax bar hal mar waxaa liigu yiri dadka iyagoo warta cabaaya inta loo yimid la dhahay qoladii boonooyinka aruurinayna aan nahay boonada idinka fiirinaynaa halkaa isugu imaada qolade al-shabaab halka la isugu keenay markii ragga la aruurinaya qaarna ay timid oo diyaar garowday amarka qaadatay qaarkii kala dhimantooda soo socoto aan ragga kamid ah waxa fahmay ragga aruurinaya rag kamid ah fahmay nin inas ahayn qoladii as ahayn gafuurka u duubna soo ku fahmay gafuurka u duubmi waa marada ka dhacday imaamada ka dhacday nin shacab oo fahmay markaas uu yiri ragga qaarna ay xagga la geeyay ay fariisteen oo howlgalkii lagu fulin rabo oo la taagay kuwii kale la soo xareynaayo wuxuu yiri ragga waa shacab waa carara ninkan waa orday ninkii xambad la raacay kuwii la soo aruuriya meesha lagu laay wixii kale xoolaha shunay sidii ku fakadeen nimankaas yaa hogaaminay akuma nimankaas waxa hogaaminay nin leeyahay suulay ma qof ay ka koobnaayeen anaga hadda saas musiixad galno wixii duurka ku soo heray wixii goobta taagnaa ma sheegay dadku waxay sheegeen meesha oo markaas iyaga la qabtay ninkii ka fakaday ilaahay ka badbaadiyay in dadka badnaayeen laakiin afar ruux oo shacab ay ku jireen inta kalena suulay hogaaminay iyo dadkan wax ka dhaxay ma jiro wax gaar ka ma dhaxayn wax ay ka qaateen ma jiro markii ay dileen xoolo may ka dhaceen xoolana maya qabqabla dagaal iyo horjooga maleeshiyaed cali isaaq guuleed cali yariis ku-xigeenkiisa duqa oo ay la socdeen maxamed cismaan nuunow ciise cabdi maxamuud calaan xuseen maxamed qaasim maxamed ganey xaraash daamey xasan goobe isaaq xundow iyo shigshigow dhammaantoodna ah maqanayaal la amray in lagu keeno nolol iyo geeri ayaa loo haystaa weerar 10kii bishii 11aad ee sanadkan ay ku qaadeen ceelbiyood ku yaalla yaaqbari weyne oo ay ka dhalatay dhimashada 5 qof iyo dhaawaca 5 kale waxayna gubeen matooradii ceelka cali yariis iyo waxay kala sameeyeen yaaqbari weyne waxaa ku yaallo ceelbiyooda ku yaallo hal ceelbiyooda ku yaallo halkii ceelbiyood ee ku yaalay ayay weerareen waana gubeen fiiri sabanay ku qabteen mudane guddoomiye nimanka yaaqbari weyne joogo oo uu hogaaminayo cali yariis macnaha dudumay kaliya dhibaato kuma hayo yaaqbari weyne laftirkeeda dhibaato ku haya maalin uu alla keeno baawureeyo meesha ku dilaa waa kana ceelbiyoodkii ay isticmaalaysa yaaqbari weyne oo dhan ayuu gubay 5 ruux oo meesha isku dilay 5 kalena waa dhaawacay markaasaa ninkan la sawiran hadda oo duqa uu leeyahay baraha bulshada inuu soo istaago oo wuxuu leeyahay kansarkii nagu dhex jiray waa soo afjarnay u fiirsa mudane guddoomiye kansarkii nagu dhex jiray waa soo afjarnoo leeyahay wuxuu ku faraxsan yahay 5 qof oo meesha uu ku soo laayay 5 uu soo dhaawacay
iyo ceelka uu gubay ku faraxsan yahay kansarka waa soo laayo leeyahay mudane guddoomiyey mar alla markii xafiiska xeeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida uu yimid degmadani Walaweyn oo aan rabna inaan baarno falkii foosha xumaa ee ka dhacay Dudumay ee ninka lagu gubay ayaa waxaa dhacday in Cali Yariis iyo maleeshiyad uu hogaaminayo ee weerareen ceelkii Yaqbari Weyne mar alla markaa maqalnay Cali Yariis waxa ognahay inuu sarkaal ciidan xukumo uu ahaa ognahay waa la wacay xabadda joojaaliyay ma joojinin hal qof meesha uu ku dilay war xabadda jooji amar lagu siiyay ma joojinin ilaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ciidanka commandoska ee danab meeshan ay ka baxaan ee ku baxeen tuulada Yaqbari Weyne 4 nin ay meesha ku dileen oo ceelka waardiyaha ka ahay ee meesha ku dileen 5 kalena waa dhaawaceen 5taas dhaawac ah ayagoo dhameystir rabo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka gaaray oo meesha ay ka soo badbaadiyeen yaa sameynaa sidaas Cali Yariis sameynaa mas'uuliyadda Cali Yariis qaadanay mudane gudoomiye sababtoo waa la hadlay jooji xabadda Cali Yariis muuse joojinin dadka badan inuu laayo rabi ayagoo ku faanayna waa kana meesha hadda soo bandhigaya mudane gudoomiye muuqaal qiraal uu ku yahay oo uu leeyahay kansarki waa soo afjarnay kansar yaa aniga duqo waay qiraal waay qaabka uu hadda u sharaxanayo baraha bulshada uga sharaxanayo macnaha dadka uu laayay oo qil u sameysanayo mudane gudoomiye ninkani waa maleeshiyo waarankiisa waa jiray mudane gudoomiye afkiisuna hadda ka qirtay wuxuu leeyahay kansar aan ugu dhex jiray macnaha Yaqbari Weyne hadana hal kansar aan ugu dhex jiray kansarkii waa soo afjarno leeyahay mudane gudoomiye waa qiraal waarankiisuna waa jiran yahay laamaha amniga meesha ku arkaan ku soo qaban karaan ku toogan karaan mudane gudoomiye yaa xukumo Cali Yariis xukumo mudane gudoomiye ninkan duqo waa laha qaar ka mid ah dadkii lagu beegsaday ceel biyoodka ayaa ka waramay dhibka gaaray iyo sababta keentay weerarka nin shacab ahay ceelka adeerkayga iska lahay waxaad ogtahay adeerkay meesha in lagu dilay ogtahay ciise farcadde waqtiga hadda taariikhdan ma xasuusto laakiin waqti dhexe ayaa waxaa dilay nimankan macawisleyda u dilay aana qabiiloo dhahaan micnaha halaca qorya naga qaatay habar giirta inta joogtaan ka qaadanaynaa waa gaaljacel waxaa hogaamiya Cali Yariis iyo jarbow nin la khaasatan dadka dilay waxaa ka mid ah ciise calaan iyo rag wato waxaad ogtahay raggii dilay ciise farcadde ayadoon laga hadlin ayaa rag ka mid ah oo isla ayakii dilaya mooto ciidankii ceelka joogay ay u adeegaysay ayaa waxaa qabsaday haddana isla macawisleydi waxay ku raacdaysteen baabuur waxay u raacdaysteen dhankaa leego maalin maalmaha ka mid ah 8 bish hadda aan soo dhaafnay ayaa waxaa dhacday nin la yiraahdo Jaablo Faarax oo cagowina adeerkiisa ayaa ceelka lagu xabadiyay macawisley oo ku xabadays ani yar kale oo gaaljecel nimankii soo kala dhex galnay war kala joogan dhan ninkii gaaljecel waxa xiri nimankan wad kuwana ka celinaa ujeedka markaas waxa badiyay anigu hadda ma dareemi karo oo goonida ay u soo qasqasan ma dareemi karo laakiin ninkan waxa badal ugu wadan kulli ninkan waxa ku cabaday wuxuu ku jawaabay kii ninka cabaday afartiinan habar gidir haddana dilina meedkiisana waxaad ka bedeli kartaa wax kala madayaysa maya cawin oo ordo ceelku waa qoryo soo qaad nimankii inta anagu hor taagnin oo kala celinaynay mid kale ayaa baawur ka soo degay oo isla macawisleyda oo la yiraahdo Cabdi Jabbaar maxaa laga tago yuhuudu la shaadan bay kala soo xabadana ku bilaab kii ordo saabta ceelku galasna qoryo soo qaad maya marka shacban baa xaafidida ka mid dhexdoodan ku jira ay keenan kala celiyo la kala hadlaan buu nimidba xabadii haday is weydaarsadeen dhexdooda ka baxnaa geesan u ordo halkaas iyadoo joogto ayaa ceelka la isugu tagay raggii ceelka waxay nimankan hadii maadaama nin ka dhaawacmay maqnaamad doonaan dadkii ceelka meesha joogay meesha isugu nimid meesha markaan isugu nimid difaaca la qabto wardiyaan iska qabanay oo nabad qofna coladuma sidinay nimankan hadda dib loo geystay haddana uu dadka dandarrada ku hayay ma maqnaad doonaan si aan ninkan ku welinaan ugu nimid intaas markay jirto habeenada kamida waxay yarkaan dhimo doono la yiraahdo ilka case 8 saac bar oo barkada ceelka soo galay barkada ceelka markuu soo galay toosha lagu qabtay waa kuma la yiraahdo waa ilka case wuri waxa la hadlaa yar kale oo meesha jooga Faarax Bagad la yiraahdo ilka case waa wuri inuu markii soo fududaa meesha ku jiray anigu waa soo istaagay waa u tagay ilka case dhibaatada meeshan ka jirto waad ogtahay dadkii geestaadna tihiin maxaad ka soo doontaa meesha inay raggan difaac isugu jirto waad ogtahay
meesha maxaad ka soo doontay waa 8 saac oo habeenimo iyo bar meelahaas ku yaasnay ama weelkaas waa iska tigni waxaan raaniyo meesha dhibaatada u geysateen waa ogtahay intaas soo jiitay ma ogtahay walaalo hadaad dib kala wadan nabadgeli wuu naga tagay habeenkii raggii aniga la joog waardiyaan la qabtay waa la joogay 9 saac ah habeenimo aan ka saaxday hal saac aan soo ka xabadaan ku kac xabadii markaan ku kacan soo baxon aalka iridiisa baan ka soo baxaba ninkan ayaa ilkaasa ninkii xalay 8 saac nabadgeli aan lahayaa meeshiya barnaamijku meeshaas oo ka soo bilowday ninkan hadda ninkan hadda diliyo sax aan qof ima dhihin ninka dhiman doono Cabdiqaadira oo baasto iyo ninkan xabadaas dhaafsada leeyahay ninkan weerar ah sida la ii sheegay markaas xaqiijinteeda indhahaygu ma hayn oo nadartu ma dhihin laakiin dadka xogdooda ka helaa inuu baas dilo la ii sheegay waa dhin isla ay kala dil kadib waxaan dhacday annagoo bartiyaan iska joognay ceelkan iska joognay difaaciyaan iska joognay nus saac ka bacdi ba weerar aan ku soo qaaday waxaan ugu soo qaaday macuslii dad badan ka buuxa ciise calaanka ku jira diflana liraa ku jira waxaa ku jira nin liraa Cabdiraxmaan ceel jooge nin liraa shigshigow dadkan dhigay Cabdiraxmaanka iyo ciisaha iyo diflaa waxaan dhigay waa qabteen dadka shacabka ayaan ku cadeynaa yo Aliris inuu ku jiro dadka dadweynaha ay sheegay aniga indhayga ma qalaag dadka ay sheegay inuu celiyay midda kale oo soo wacay ciidankii meesha oo tarag kamid oo soo wacay oo wax dhibo ma jiraan jooga lahay barnaamijkan uu leeyahay waa xadaaba taas isweydiin u baahan iyo soo wacay ciidankaad noo soo dirtay rag kamid oo wacay ciisaha wacay subxaan wacay Aliris dad shacab ku jira naftirkooda oo meesha ku jira waxa la yiraahdaa isaaq xundu nin la kamid ah waxa kamid ah nin la yiraahdaa Elay oo lama la yiraahdaa Xuseen Jumo laakiin Elay loo yaqaan ninkii la yiraahdaa Ibrahim Xaraash ninka sabanka iyo ifanta tuuro kamid oo ahaa midkaan bari weyne wuxuu ku bilowday niman ganacsataa oo ceel bari weyne ku yaala jooga magaalada bari weyne ceel ku yaala oo ganacsataa ceelkaas gata ayaa joogay waxay haysteen wax yar oo aan badnayn qoryaha isku waardiyeeyaan ma ifaantay oo hantidooda ay ku ilaashayaan waxa dhacday habeenkii waxay yiraahdeen waxa noo yimid nin socda waan ka shakinay orod naga tagaan dhaxlo ma ifaantay adiga waa uu naga tagay subaxii markii waagu bariyay dagaalka lagu soo bilaabay nimankii xal celiyay ninkii meeshaan marayo yiri xad noo soo doontay ceelka aan rabnaa ma ifaantay sidaas oo dagaalku ku bilowday beel iswadata oo macawisley iyo ganacsato iyo qabiil leh ayaa dadkaas barakiciyay oo ku soo duulay wayna laayeen 4 nin way dhimatay 4 nin way dhimatay ceelka gudihiisa ay ku dhimatay 5 qofoodna waa la dhaawacay oo qaarna ceelka gudihiisa lagu dhaawacay qaarna guryahoodii looga daba tagay intaasu markay dhacday ciidan waxa meeshaan ka baxay dawladdu leedahay waa ay tageen waxay soo qaadeen meydkii iyo dadkii dhaawac ahay iyo dadkii meesha joogay oo barakaco baabuurta dhan soo raacay waxaan ugu hortagnay meel meeshaan oo magaalo harada afkeeda dadkii barakici walweyna lagu daadiyay meydkii waa la duugay dhaawiciina xamara loo qaaday intaas ayay dhacdadaas u ahayd dawladda iyo cadaaladana waxaan ka rabnaa dadkaas dadka laayay in gacan dawlo la soo gelsho dadkaas waxay hayeen qabiil la yiraahdo gaal jecel waxa bilaaba dagaalka nimankii guud fadhigooda loogu tagay nimankii ceelka jooga fadhigooda loogu tagay wax uu tagay niman macusley la yiraahdo macusleyda gaal jecel way waxay degan yihiin meesha la dhaho Carmoole oo ku dhagan magaalada afkooda ay degan yihiin sidoo kale isla kooxdan Cali Yariis iyo Duqow ay hormuud ku yihiin laguna raad joogo ayaa loo haystaa dil foolxun oo aan qabiil salka ku hayay noloshana lagu dhaafiyay marxuum Cismaan Xasan Maxamed Owliyo kaasi oo baadiyaha yaqbari weyne ka raadinaya xoolo kalumay caloosha ayay banaanka keeneen kadibna waxay ku gureen dhagaxaan iyo caro iyagoo ka jaray gacanta bidix
isla markaana suray aargada iyo aqbari weyne falkan ayaana dhacay 22kii bishii tobnaad ee sanadkan nin la yiraahdo Cusmaan Ooliyo oo xoolo dhaqata ah ayaa waxaa ka lumay xoolo ka luntay xoolo ayaa ka lumay xoolihiisa 6 neef oo ahayd 6diisa neef asoo raadsanayo ayaa waxaa lagu qabtay aqbari weyne maleeshiyaad joogo waa la qabtay waa la jirdilay waa la jiiday waa la xirxiray caloosha laga soo bixiyay gacanta laga gooyay meeshaan hadda sawirkan arkoono aqbari weyne oo dhan la soo baxay Cusmaan Ooliyo markaas lagu korfeesteena waa lagu dhaanteena midul gudoomiye sidee aqbari weyne oo dhan reer aqbari weyne oo dhan isugu raaci karaan dulmiga intaas la isugu raaci karaan midul gudoomiye yaa sameeyay ficilkaas nimankaana hogaaminay nimankan midul gudoomiye nimankaana hogaaminay Ali Yariisa hogaaminay ninkaas Cusmaan Ooliyo ah wax uu galabsada ma laha qori ma wadanin waxa la yaab leh gudoomiye qorigaana dusha laga saara fiir qorigaan ninka jaalaha gacanta uu ku wado Cusmaan Ooliyo watay aan dhirba ma wadan qori waligiisna ma qaadan si dhiigiisa loo xalaashado qori la dul saaray qorigaana uu wata amal hadhow maxaa la sameeyay marka mid qaana midna gudoomiye calooshi ee ka soo daadiyeen gacanta waa jareen oo bidix kow waa jareen lugihi say ugu dhufanayeen misaar ayagoo jarmi waayey waxa la dhameedka la soo dhiibo ninka waa badishay dhameedka soo dhiiba calooshi si aan loo dareemin dhagxaan ay ka soo buuxiyeen falka fuxushmada fiir midna gudoomiye dhagxaan caloosh laga soo buuxiyay waa la isku laabay waa la soo duuduubay calooshis waa u dhameystiranta amal laakiin caloosh aqbari weyne ku soo daadsadeen gacanta waa maqan tahay way goosteen waa la maqan tahay aqbari weyne ku maqan tahay lugihi ayagoo ka laalaadaan meesha la keenay falkaas fuxuura fiir midna gudoomiye yaa ka dambeeyo ninkan Ali Yariisa ka dambeeyo qoriga uu dul saaraayo ayaga iskale qorigaas midna gudoomiye maleeshiyaadka aqbari weyne dhibaato dadku ku hayaan maleeshiyaadka joogo dudumayna dhibaato dadku ku hayaan midna gudoomiye waxa is heesto oo dhibaatada dadku ku hayo shacabka maaha waa maleeshiyaadka midna gudoomiye dadku hubaysan waa midna gudoomiye dadkan dad walaalo ah oo weligood wada deganaa waa meeshan waxa mar walba colaadaha horinaayo oo dadka isku diraayo maleeshiyaadkan hubaysan waa midna gudoomiye ayaga dhibaato ku ah haddii aan laga dul qaadin dadku waa isku baaba'ayaan haddana waxaa kaaga daran foolxumada ay sameynayaan qof ayaa xubin loo jaraya xabad kaliya looguma ekeenayo xubin loo jara foolxuma dhinacaan laga sameynaa dhinacaana foolxuma laga sameynaa Soomaaliya dhan wada saameynay marka mudane gudoomiye maamul goboleedka koonfur galbeed ee saameynay dawladda Soomaaliya hadda wada saameynaysa in la iska qabto mudane gudoomiye banaan nimankaana waarana u jarnay ninkan waxa la yiraahdaa Ali Yariisa ninkan waxa la yiraahdaa Ciise Canaan fakad waaye laamaha amnigu waa ku raad joogan waarankoodaana jaran mudane gudoomiye meesha lagu arkaa lagu toogana waa is soo dhiibi waayeen waa la wargeliyay waa la wacay soo xaraado waa diideen sababtoo in falalay geysteen ninkan duqow ah kamid inta waay meeshan gubniinka uu ka muuqdo waxa waay tuulada dudumay soo weerareen yaa soo weeraray Ali Yariisa iyo duqow soo weerareen nimankan sawirada u jeedin soo weeraray meeshan tuuladaas waxa gubay labada nin waay ciidan hogaaminayaan waarankooda jaran meesha lagu arkaan lagu toogana mid ka mid ah ehelada marxuum Ooliyo ayaa halkan lagu dhageystay waxa lagu dhahay yaa laga dilay maanta ka socota Usmaan Xasan Usmaan Ooliyo maxaa isku tiin adeer shay adeera u tahay yaa dilay Usmaan Ooliyo gaajada dilay tay ku dilay birweyniya lagu dilay baadi goobahiisu muxuu raadinay geela ku goosay geela ku maqanay Usmaan Ooliyo xoolo dhaqato ahaa miya xoolo dhaqato hay haye goorma la dilay waxa la banaanka laga soo qabtay haye birweyniya la keen haye birweyniya lagu dilay haye ataneerka uu ku meesha waxa ka maqan ataneerka ku maqan internetka ka aragtay ya ka aragtay hay maxaa aragtay oo meesha la tuurino oo usugu qoryaalka kor laga saar haye qori muuta asaga may weligiisa qori ma qaadan shacab iska ahay qoriga la dul saar muxuu ahaa dadkii direena dooshi ka saaray meedkiisa goorma hesheen meedka awalay waa la soo qaaday meel isbaarada
واقرتي isbaarada laga soo qaaday واقرتي mareerta dhigay هاي aloosh eber ma dheerinka banaanka yaala واقرتي garabko male هل قعوة بانته hal gacan male هاي lugaha bududuga dasi واقر maqaarka lay reebo hay booji wax kale ka jir ma لغة lugaha هاي aloosh migil dhagaya dhagaha laga soo bixiyay dhagaha aloosh من دعري أو ma dheerinka waa lagu reebo waa lagu celiyay واقرتي asaana loo hiri واقرتي saana loo hiri dhagaxa laga buuxiyay calooshii aloosh dhagaha lagu buuxiyay gacantii aw waa laga gooy واقرتي lugihiina lugo waa jabsan yihiin ma ogay maqaarkooda waa isku hayo maqaarku waa haysidaan asoo gacan la'aana ala duug geelina waa ka maqan yahay geeli 5 neef kalena waa maqan yihiin 5 neef 6 neef ah oo yaa iskale usma awdiiday 6 neef ka maqnayd leho madaan waaba la una waaba la arkay 5 kale waa maqan yihiin waa gartay meeshii lagu cunto ma ogay haye maqana haye la una haye waxba loo mahay okay dadkii dilay isbaan ooliyo meedii imaadeen oo wada hadal may meedii la hadleen hasheegan horta xoolihii ma iska soo celiyeen maya waa ku maqan tahay garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa warbixin ka dhageystay gaadiidleyda ka shaqeysa gobolka Shabeellaha Hoose oo ka cabanayay dhac iyo gaboodfalo ay kala kulmaan maleeshiyad hubaysan maanta annagoo gaadiidleyda Soomaaliyeed ah aan hortaaganahay maxkamadda qaranka Soomaaliyeed waxaan maanta mar waxaan nahay cabasho marna waxaan nahay codsi waxaan hormarinayaa cabasho gaadiidkii waxaa lagu dhibaa niman Soomaaliyeed oo degan meesha la yiraahdo Kabahereg iyo u dhaxaysa muxuu ahay Leego Kabahereg waa inta meeshan ay ku taala Balidogle xeradeeda wax yar markii la dhaafo jidka oo maaragtay aada Kabahereg xagga la yiraahdo laakiin tan waxa la yiraahdaa jeerada Kabahereg waxay hoos tagtaa yaqbir weyn amba wallan weyn isku xukunta nimankaasi gaadiidka lacag bay ka qaataan lacagta markii ay ka qaataan mar labaadii mootooyin ka daba qaataan nimanku waxa waaye niman isbaaroley ah oo isbaaro dhigtay oo isku sheegay inay yihiin macawisley shabaab la dagaalaya lana dagaali shabaab oo annaga nala dagaala isbaaradu waxay taallaa Armooley meel la yiraahdo oo biri weyne ka sokaysa meel biri weyne ka sokaysa iyo jeerada Kabahereg u dhaxaysa oo Armooley la yiraahdo ay taallaa isbaaradu meeshaas lacagta uga qaadanayaan markay lacagta uga qaataan waxay ka daba qaadanayaan mootooyin lacag waliba aanan awoodin oo jidku ku xirmay oo dhibaato weyn ka dhacday oo gaadiidka Soomaaliyeed Muqdisho hadda uu ku maaragtay oo fadhiyo oo dhaqaaqi waayay oo ku kaliftay inay maraan muxuu ahay halkaas iyo bacaad iyo shabaab dhexdeeda ayadana way ka daba tageen ashii darawaleenta ka soo afduubteen markii aan marka midaan sii wado markuu gaadiidka lacagta ay ka qaataan ay hubsadaan baawurkaasi lacagta inuu bixiyay mar labaad ay mootooyin ka daba qaataan markay ka daba qaataana darawalka la degaa markii la dega duurka la geena toorey ayaa lagu mudaa ala leeyahay $1,000 hadda dalab ninkii baawurka lahayo ku qaylinaa ninka baawurka iskale waxaa laga yaabaa inuusan lacagtaas haysanin hooyadiisii aabihiisa waca xaqiiqo waaye taas ana kitaab ilaahay ku mari kara nin hadda koor la afduubtay 9 nin oo la afduubtay nin kamida hooyadiis ayaa waxay noogu timid bakaaraha annagoo baawuray ah waxay tiri wiilkayga waa la afduubtay ninkii baawurka iska lahayna waa uu ka bixi waayey walaalayaal halay qaaraan meeshaas ayaan ku qaaraanay nimankaas marka walaalahayn ah dacwada aan u qabno waxaan rabnaa dawladda Soomaaliya in walaalahay nimankaas in nagala qabto gaadiidka su'aashii aad u weydiisay waa xiran yahay anaana ku cadeynaya Muqdisho ku xiran yahay
mid dhifa oo tuulooyinkaana dhow u socda ayaa yimaada baabuurtii bay dhab u socotay amba u socotay muxuu ahaay meesha la yiraahdo beled xaawo badeecadeedii hadda waxaa laga keenaa berbero iyo boosaaso way xirantay waddadaas way xirantay waxayna u xirantay darawalkii baa diiday oo yidhi aniga baabuurka meesha ma marsiin karo badeecadiina way xamray ku xayiran tahay baabuurtana garashadii ku jiraan sidaasayna bakhaarada u buuxaan waxaan codsanaynaa weliba maxkamadda in ay si u baarto ganacsatadayna iyo gaadiidlayna way soco weyne badeecadayna wallaahi uma wallaahi berberay ka timaadaan ase waxay ka gashaa meeshaas beled xaawo kenya etoobiya ay ka gashaa waana badeecadii annagu aan ka qaadi jirnay muqdisho waxaa awoodi waaye darawalkii baabuurka wadi lahaa ayaa nin walbaba xataa markii la yidhi magafaha waa lagaa bixina ayuu yidhi aniga nafteyda yaa bixinaya yaa damaanad qaadaya braaw waxaa keenay xildhibaan annagoo guddiyoo dacwo ah ayaan meeshaan ugu nimid isbishal anaa la fadhiistay xildhibaanka cabdikariin cabdulla barisaa layidhaha gambaa ku magac dheeree codkayga inuu maanta maqle aadaan u jeclaalahay bartaana la fadhiisannay xildhibaanku wuxuu yidhi lacagta iska bixiya lidin dili maye waayahaye aan ammaan helno lacagta waa iska bixinaynaa waxaan u soo dacwoonnay guutada meeshaan joogta ayaan u soo dacwoonnay waxay yidhaahdeen annaga taliyaha xoogga dalka soomaaliyeedna xukuma waana u gudbina arrintan nin xasaanad lana annagu uma dhaqaaqi karno ilaa amarna la soo siiyo baldoogil xeradana kula kulanno waa 3 mar cabashadayna markaan u gudbina lacagta iska bixiyo ammaankiina waa la sugahay lamana sugino asigoo jooga oo goobjoog ah ayaa 9 darawal nagala afduubtay goobjoog u ahaa walweynaan jifnay waa soo baxnay waxaan ugu nimid intaan ugu nimid waa wada fariisannay waxaan nimanka masaakiinta oo la afduubtay xildhibaane waxaan kaa codsanaynaa dadka noola soo daayo $1,000 lacagaa aan nagala qaaday baabuurtii sidaasay ku nabad gashay calaa darawal 9 nin ay ahaayeen 9kii $9,000 aan bixinay waxaa amray ninka darawalka tooreyda gelgelinaya ayaa eheladiisa soo wacaa amba batroodigiisa baabuurka iska laga soo wacaa asoo leeyahay dhaqaalaasaa laygu haysaa waana laydilaa saacad ka bacdi haddii aan maaragtay lacagtaas laga bixin sidaasaa lacagta looga bixiya waxa aan dacwada aan ka qabno nimanka isbaariistayaasha ah oo meeshaas degan oo na afduubta gaadiidkayna u xayirmay shaqadayna ay u baaba'day badeecadii dekadda soomaaliyeed ka soo degaysa ay mari la'dahay ee maanta berbere iyo boosaaso maaragtay badeecadeedii la isticmaalo sidaasaa gaadiidkayna ku shaqo beelay sidaas aan ku ceertaawnay guddoomiyaha gaadiidka soomaaliyeedana cabdikariin cabdulla bariisaa layidhaha gambaan ku magac dheere dacwada ka bacdi codsigan aan ku darsanaynaa waxaan dowladda soomaaliya ka codsanaynaa maxkamadda qaranka soomaaliyeed aan ka codsanaynaa nimankaa walaalaheen in nagala wareejiyo naftayni hadda bishii 11aada lagu jiraa bisha 10aad dhammaadkeeda 2 nagala dilay midna waa nagala dhaawacay nimanka macawsleydaha dilay macawsleyda sheeganaya ayaa dilay waa 2 darawal iyo darawal la dhaawacay 3daas way waana weliba baabuurka ninkaan iska lahaa baabuurka darawalkiisa lagu dilay lacagtii markuu bixiyey oo lacagtii siiyey ayaa mar labaad inta laga daba tegay aan lacag kale laga qaatay darawalkii 5 cabood lagu dhuftay waa waxa noo dhiman anoo ku hadlaya magacayga oo ah aadan abdulqaadir aamin ana ah gudoomiye ku-xigeenka gaadiidka Soomaaliya maxkamadda sharafta leh horta waxaan ka codsanaynaa in ay warkaan horta ay naga ajiibto naga diiwaan geliso isbaarada waa wax uu bilaabay ninka odayga oo xildhibaanka cid kale ma bilaabay annagoo
waddadan ilaa iyo bir weynaa baabuurta dhib ku qabi jirtay naga godgadoomi jirtay madaxda markaas waddanka haysatay sida xala iyo ama gaashaan intaan weydiisananimiyo meeshaan aan iska daduuganili oo nabad aan wax ku daduugno aan ka soo noqonnay maalintii dambuu intuu meelahan soo maray inta ciidan soo dhigay waa u nimana waxaa xildhibaan meesha xarada laga soo galayo ciidamad military xaradoodan kula kulunay mar labaadna intaan kula kulunay waxaan dhahay xildhibaan adoo saanadii dawladda haysta ma haddana niman isbaaro dhiganayo aad inta noo keentay anugu isbaaro shaqo ku meli laakiin shabaabaan la dagaalayaa shabaabkii baabuurta muu noqdeen baabuurta la leenayo daraweynta la dilaayay shabaab ilaa duurku ku jiray ma raatid ilaahay khayr ha ku soo waxaan dhahay raadso asig waxa ay mas'uulayo nin leeyahay waraabagaad asaab taliye ka ururka uu keenay waraabagaad la yiraahdaa waagaas had waxa u maleyn taqriiban 2 sano waa ka badan tahay intaas baabuur la gubay nin la dilay qof la afduubtay aniga nafteeda kula hadlay gaari aan leeyahay intii 2 saaxiibnimo darawalka la iga watay gaarigan meel cidla uu fadhi uu raray dad ay saaran tahay ayaa waa berigi 9 saaxiibnimo la isoo wacay darawalkii ay soo wacay wuxuu aadano waa la idilow haya xalay waa la watay saacada aan jooga adduunyo aakhir meel aan joogno ma ogi uu yiri igu dhiibaan dhahay ninka ku haysto ninkii baa la igu dhiibay 3,000 aan ka rabaa gaariga rararsan sokor iyo bur iyo bariis iyo caano iyo bagaasha saaran kun rumor way warareen bay u socda markan 9 saaxiibnimo ilaa 1 saac subaxnimo aan gorgortamay ninkii markii dambe waxaan dhaafin waay 1,600 aan siiyay maadaama uu darawalkii dilowhay 1,600 aan siiyay gaariga markuu safro meesha tago uu soo noqdo 1,600 iska dhaafay 500 laga ma helo 500 hadii laga lugtiisa hore waa hasa ahaatee annaga awalba wuxuu isbaaradan dib ku qabnay haddana waxa waaye dekadib waxay u wareegtay berberiya boosaaso alaabtii badeecadii iyo baabuurtii wax raray xaggay aadeen ganacsad Soomaaliya kamid ah waxa geysanay berbera baawur laga soo rara meel oo boolaha waqtigeeda lagu dejina waxa uu sababa markii inta wada laga waayay wadadii la waayay waa go'day alaam darawalka hadii maalin walba la dilaya darawal isbaar inta laga keena waa la dilaa uu leeyahay gaariga mu waday aniga mu wadi karno waa wadi jirnay laakiin hadda odayaal noqonay ma wadi karno hasa ahaatee waagaas ilaa abtunaaw hadda la joogo oo hadda meedka u dambeeyay waa 2 nin oo hadda maalin dhaweed la dilay bishan tobnaad waagaas waxa ku wada markii macmuushadii meesha la keenay ilaa hadda markii ayaga la keenay ilaa hadda meed waxa u dambeeyay 2 wiil oo hadda bishii tobnaad October lagu dilay inta labadaas u dambeeyay hadda wax la dilay laakiin ka hor dad la dilay oo la yiri ilaaha jooga la yiri oo la saga tagay jirto badan meeqa goorma wax dilo u galeen hasaatee markan annagu horta dhibkaas aan haysta dhibkaasna waxaan ka codsanaynaa dawladda xabaday ku dhufanaan qofka soo ooynayo ku soo wac darawal oo liif mindi asi dhanba meel walba shaq laga leeyahay ama habeen madow intii dharka laga siiba banaan la fariisiyo bil lagu rushayna waana la garaaca waa dhacday bani aadan jirkiisa jilica ogeed habeen beel lagu shubay qabowna jiro la garaacay maxay yaal wuxuu ooynaa waxaan bani aadan bisheegan karin uu ooynaa ninka markan horta dhibkan waa dhibkaas maxkamadda sharafla iyo dawladda annaga canshuur dawladeed hal xaba naguma baaqato gaariga laga dhiibaa badeecada laga dhiibaa wax oo hadda aan nagu baaqdo canshuur dawladeed aan bixinayn naguma arko hal shay naguma arko canshuur dawladeed taramastarale kala wato buuq wax dhan waa iska dhiibnaa waxaan dhib ku qabi jirnay afgooy iyo daafeedan meel u dhaxay niman la baxay magafa ayaa joogi jiray laakiin waayahan buu laga nabad helay kuwii ayaga militarigana ilaahay baa ugu mahadinayna nimanka saraakiishan Axmed Gaashaan iyo ku jira militarigana shaqo ka qabtay nabada gaariga habeen iska guurayna cid haysata ma meeshaas ma laga qaaday militariga ka raray waa kala raacday qaar bay soo qabteen markan warka anaga waa kaas dhibkana heesto waay wadadan ilaahay baan mahadinaynaa dawladana aan u mahadinay wadadan dadkan hana laga qabto waa shacab iyo isku jiro ay shacab beeri ninka haduu tuugu meel ku hoydo haduusan lahayn ma joogay wadankaas tuugii iyo dadkiisa way isla degan yihiin
meelba ma aadayb gaariyo inta ku dhaca jiirada isaga soo baxa bari weynu iska imaana meeshuu raashinka cuna ama biyo uu ka gadana markan dawladda iyo maxkamadda waxaan ka codsanaynaa nimankan hana laga dhiciyo wadooyinka Soomaali way iska jiraan isbaaro way jirtaa dad la dilay wali ma arag laakiin dil intuu yaala waa leego iyo bari weyn inta u dhaxayso عذاب أبو الأمرين وهاي البني آدم بشر كلاهي وانت والله عذاب وهاي ما عذاب إلا أنين هبين مذو إن بيلو شيء هذا الله قراعي هذا كلامه دوميها ودوين يلان السعودال كان جديد كسومالي ودadaas sida odayaasha iga horeeyeen ba sheegeen guddoomiyaalka iga horeeyay anaga in badan wadooyin ka marnay meel kasto dhib ku jira waa ku baxi jirnay wadooyinku way badan yihiin wada aad hiiraan ilaa mudug galguduud waxay ka laaxataa warmahan iyo tixsiila sukadiisa hadda ka hor dhibaa ka jiray sadana kala baawrta loogu baara jiray baawrta mootooyin looga daba cayrsi jiray waxaan u soo dacwoonay taliyaha guutada iyo taliyaha saldhigan u soo dacwoonay oo walaweyn jooga markaas waxbay ka qabteen meeshaas dhibkii gaadiidka waa ku yaraaday mootooyinka laga daba qaadanayay iyo isbaaradii iyo afduubkii waa ka yaraaday magaaladan walaweyn nafteeda borobalana badan ka jiray oo qofba meel qora la istaago oo baawrta kan markuu ka qaato kan uu leeyahay keen ayadana waa ka soo dacwoonay ilaah baa ku maarsan shaqo fiican laga qabtay gaadiidku amnigu ku mara intaas anagoo haysana oo ilaa yaqbar weyn nabad lagu maro waxa yimid ciidamadan uu hogaaminayay xillimaana markuu yimid lacaga lagu bilaabay waa soo aadnay taliyaha iyo taliyalka wala soo hadalnay waxay yiraahdeen imaada anagu meeshaas nin xasaanad haystaa jooga mana aadi karno anagu hadda amarna looma siinin inaan ku baxo inaan aadno afkiina ku hadla waan nimid xillimaana meeshaan kula kulanay waxaan ir wadadan maamulkaana ka talsha degmadii walaweyn oo hoos timaada ciidanka naga wareeji ma idinka wareejinayo ciidankan macuusleeya la yiraa dadan ku waxaan kula dirirayaa dawlado kale halkaas ay joogayaan lacagna way qaadayaan warna lacag naga qamato ciidanka ma degmadan hoos timaadeen walaweyn ama naga wareeji maya mar labaad taliyalka ku soo laabanay taliyalku waxay yiraahdaan anaga amarna uma haysano taliye xoog ciidanka Soomaaliyeed amarna ma siin ninkaana waa nin xasaanad haysta ciidankana asaga wata tigniku watay cabdibilayaal watay ciidan tarabana u jooga meesha isaga la kulano dantan ugu qasabtay wuxuu yiri amnigeena meesha amnigeeda ana sugaya ciidankuna lacag ay qaadayaan waa ciidan beeleed waa macuusley waa xuduud dhulkaas xoreynaya waa dantan dhadhaafsii weysay lacag ay qaadeen wuxuu noo keenay saddex nin oo leeyahay waa gudoomiye iyo guddoonka xigeenka macuusleyda amniga ayaga sugaya wixii la idin ka dhaco ayaga laga rabaa lacagtaasna waa qaaday lacag qaaday maadaama intaas u dhacday lacagtii la siiyay waa la maray laba safar inta la marinba waxay bilaabeen inay baabuurti dhacaan inay lacag kale oo aqal qafooca ay yiraahdeen hadana waa rabnaa xillimaan afkigan kula hadlay waxaan xillimaan nimanka aad tiri amniga sugayaan lacag kalena ma qaadi karaan khidmadaas la siinaya gaadiidkan lacagna waa ku soo rogeen wayna dhacayaan afkiisu wuxuu ugu yiri war waa iga wardiideen marka aad meesha keenay xillimaan naga qaad maya ciidamo koonfur galbeed ka yimid wasiirka amniga meesha gaadiidku waa istaagay wadada waa xirantay ciidamo koonfur galbeed ka yimid wasiirka amniga koonfur galbeed idaacadaha yimid halkan waa isugu nimid anaga nimid baawurtii taliyahan danabo halkan jooga iyo wasiirka koonfur galbeed iyo ciidamadii guutada wixii halkan ka joogay dhama waa la waday ilaa 100 baawur oo 20 bari taagneeda la gudbiyay oo si xoog lagu gudbiyay xilligaas ka bacdi fawday ahayd haddana way yimaadeen nimanka hadda magacyadooda la sheegayay sida Jarbow iyo Carab iyo nimankaas ay weerareen anaga gaadiidkan lacagtana ka qaadayna amnigiisana sugayna anaga isceshanayna waxba kuma hagaagin sidii dadkii u dilayaan waxay joogaan yaqbar weyne ilaa balowga intaas joogaan oo yaqbar weyne hoos timaada ilaa leego meesha la yiraa Armoole halkaas jooga waxay keeneen waa niman sumatalida kuwa kula lacagtan qaadayna anaga gudoomiyaal u ah lacagta baar markii laga qaado hawlka su'aal leeyahay moota laga daba qaadanaya lacag baan la weydiisanaya daroolkii la afduubanaya duura la tagaya wala liif garaacaya kii lacagta ka qaaday haddaad u dacwooto waxa kama qaba waxay dantu ugu kalifaysaa ninkii aadaara la dilaayo liif la dhacay
ama hooyadiis ama xaaskiisii ama walaalkiis ama ninkii baabuurka la wacanaya ilaa waa qof bilaadan la dilayo sidaasaan waxaan ku luubnaa haddana lacag baada annagoo haddana intaas dhiibana waxaa yimid dil inay nafta ka qaadaan oo dilaan 5 xabanaga ku dhuftaan bishaan gudaheeda hadda waxay dileen 2 darawal bishii hadda tobnaad dhamaadkeedii inay ahaadaan u malaynaa taariikhdii mahaya 2 darawal ay dileen midna 9 saac galin dileen midna subaxdii 2 saac dileen waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa in dhibkaas wadadii waa xirantay wadadan waxaa mari jirtay maanta markii uu yartaa 100 gaari oo baabuurta transitka loo yaqaan oo xamuulka iska daamane baska iyo wax rakaabka 100 baabuur waa mari jirtay maanta oo yuura taraag iyo taraakara oo xuduudaha u kala socdo hadda xalay iyo shalay iyo maanta waa joognaa 2 baabuur ma marin waxayna u xayirantay amni la'aan amni darro isbaaradaas aqal ka faaca ay u xayirantay waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanaynaa iyo dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dalka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wadadaas amni in la kaga dhigo ilaahay amni keeni kare in dadka laga wareejiyo dadka Soomaaliyeed lagu soo baxo dibka iyo dilka iyo dhaca meesha ka jira dawladdu ku soo baxdo intaasaan ka codsanaynaa والله وضعنا هذا بدأ أفضوب كاس كده $500 كمان لو قاعد واحد أفضوب كهذا كنت لقي إنه معلوم والبقف على أركي سوقه ورجع يلا باورك يلا جاه يستا دروك يلا جاه أفضوب هذا سبب دبات تاب هل كان هذا أفجوي ولا ويل لحد هذا سداني مرة قط وتلا كوسوا بحد بعدين كمل التريا كوسوا بحي ولا جا نظيف كوا وحبلوا ما أفضوب إحنا لو ما نعم باورك لحسة ما نوصل هذا ما أنت إلهي النهار كريم محكمة إذا ما غلب كسيدا وحب ضر المغلى جري وما أنت نوقت بالدجاج كإني إلهي ما ورث ما هذا إسكاله أيضا جديد كي ينباتدي يوحي جديد كالوهي ما أنت التاجين يعني أرت أولا وإذا كان بعد علينا محكمة شرفت له ثانيا وحل مدة نجا جديد كي ونجا حرميه وضعنا نسيت على شيء جاي هدر باورته وحل من تابيك اللي هو بقول كنت قاري ماشي مري جرتي هذا قبل كباية وكله إلى جدو باورت وضعها كانوا مرتاح بدل بدك الشعب كان أنت هذيك السنة هذا الله مرة أنت واحد نفهم مقول الله مرة واحد الله مرة ويعبسوا هاي جسته إيريدان هذا ولا وين وكله بركي لما كان كول قلعي وعكوري وحي هاجرته ولوجيه تاريخ أيضا موريانت وحي شديلاي قبائل كويسة سي لما كانوا يبدين غير الله سي وحبيق النوقتين في عن ولا طابكروا نفي يبان لو كويين شغف في عن ولا يقانو هذانا شعب جيد أي نوقتين ودويك نوقتين أنا كم هسي كرتود تسنة من وهاجرت بس مكوا قدرت ما شاء الله لا شيء ويقدر هاجرت ساس أيونا نفتو ده مين اللي كعضو مت كل ما هذا نيجي لما لكن آخر كي وحي أون كانن من الأمانة وعاو باوركم بيشوا ربنا أنتوا كباك أنت ساحكرا هنتدي وحلوقة باور طلعة أنت وفير كرت بجرت الحمد لله رب ولا ويك بالله إلى أفجوي لبعض مركز عندك جرت هدر وجيتكو حنمية هاي ووضعهم ما أنت لا بقى ماسكله محكمة وجوكتها وحنا نجمع نجيريد وحورنيك نجمع نجيريد عالك يجوردين وحوا مقشنا لفتركين ولا ساعتها وحماشة كجري هو حبيت كوسا قال لكن أنا كجيد أهم وحن أصلنا محكمة الشرفت له إذا ماذا قلب كسيدة محكمة الصومالية وحن كأصلنا وضدان من اللي كجريهم ولا رفضوا الشباب اللي كسر ولا وين كبلاو إلى الليغو إيريا الليغو وأنا مكان هبيسان أو عوسلي القتل يا قبيل كهبيسان وماشى دقيق واحد دقيق الإيريا ده أنا أدو ولا وين أنتوا اللي حسا هذا ماشى عن شيء جايو هيك هو الكلام يعني ماشى اللي هذا الليغو لنا عن باورت كي حتى اللي حضر الكاميرا ولا سوق قبصة كي مرة برمودية ولا سوق بنا كوا حتى الشباب كده حمرة كيسوا قبايا كنا يلمنا يكون بحثنا كيف كنت مركب واحد مودة قبل هذه الصومالية سيدا بدأ يقول هذا شيئا باور ككيمة البربراء إنه ما أنت بدأ عدد اتباع ضباي وحكى اللي في معناه اسمه كابو وهي بدأ عادي مقدشة كسودة دي وحكوا حنا متى بكارة مهمة أنت سووا يعني الباور إثيوبيا صالح مرة وجدي ماذا راشي جدا لقصة قاضي باي لكانوا عن مرة المركز ده بحال كيرا عندنا أفجوي حكوا لنا بالمرة على شيء بيسلم هل كان كلنا بلدوغ واحد لبنك لبنك فدرالك هل كان كلنا حرادة بلدوغ كلنا وتهي قوتو لا فديسي أنا عبشة وشاغلنا وضدا أنا مركز عينك اللي كان يدا أسبوع عينك هو كان
oo checkpointyasha la soo dhigaya aanu nimid maya waa ka sii darta erkeylaad waxba iska bixiya lacagta dadka la macaamila hadda labadan darawal oo la dilay mid ka mid ah gaar aan u leeyahay waday waa la dafay waa la watay lacagtii midna la isku fahmi waaye xilli aroor oo la jiifo telefoon la qabanayna way ahayd ninkii saasa loo dilay hadda qof marqaatiyo oo markii la joogtana ma lahayn waa la dafo waa la leexsan ninka meel ahooda la geystay anagu shacab aan nahay ma hubaysnin ganacsata aan nahay qoryo ma wadano marka waxaan rabnaa in waxaan ka qaado ama baabuurta qoryon kugu sharciyo noo siiyo anaga nimanka la macaamiltamayna oo iska dhacanayna oo magafna ma wada karo dii maanta qoryo noo siiyo noo ogolaado dii saakay aan dawlad anaka inta roo imaatay aan u geensanayno wixii cawashaha aan qabno aan helnay waa ilaahay mahadi waxa wiilkaan baabuur waday wala weyn wuxuu nagu soo maray habeenkii fiidkii wuxuu seexday meel wala weyn ka tirsan oo la yiraahdo xarasheenaha subaxdii uu ka baxay wuxuu tagay bari weyne meesha u sokaysa ee la yiraahdo Carmoole meeshaas oo ka leexday nimankaas macuusleyda oo gaaljaal ayaa joogo ka leexday wuxuu u leexday waqooyi markuu u leexday waa uu sii socday meel la yiraahdo lebiga baanyada oo aan u dheerayn bari weyne marka uu marayo ayaa niman cilsheen ay hortaageen baabuurkii raggii la socda waxay noo sheegeen markay hor istaageen oo inta degaynin u tagay oo uu soo laabtay baabuurkii markuu soo galayna xabada inta lagu soo rugtay looga dhiftay wadna intaasoo markay dhacday waa ay ka tageen hadda wax kale oo mataad ku safar xabadii markay ku dhufeen waa iska bixeen nimankii taas markay dhacday telefoonada la soo diray baabuuran dirnay baabuurkii wuxuu ka soo qaaday meeshii ninka lagu dilay si loo sii waday degmada la keenay waa la sii waday si ay dhiya la geeyay waxa la geeyay isbitaalka Madiina la yiraahdo intaas ka bacdi ninkii wala duugay intaas markay dhacday ayaan waxaan raadiye maagnay dadkii dilay waxaan ka bilownay nimankii koow meesha uu joogay macuusleyda oo gaaljaal meesha joogtay aan ka bilownay nin caliyare lagu sheegayo meesha uu jooga la leeyahay u tagnay waxaan ninkii yaa dilay waa goobayahu leeyahay waa goobay laba bari markuu na soo celceliyay oo labadaas bari oo soo laalaabayay oo aniga ninkii waa aan waayay waxaan idin tusayaa odayaal aad kala xiriirtaan nin odaya oo hadda anagu aan aad u fahansaneen oo noo keen ninkaas Cabdullaahi Abax ayaa la yiraahdaa ninkaas markuu noo keenay wuxuu yiri ninkii adaka keenay kiiskaasu kiis la xiriira waxa nimankii sidii aan uga sugaynay waxa dhacday dagaalkii ka dhacay tuulada Barweyne la yiraahdo anagu nimankii ka sugaynay waxaan noo labeeyay oo laba noogu noqday kiiskii Barweyne ka dhacay oo xasuuqa iyo dhaca iyo barakac yeeshay cabashadanadu sidaas ayay ku aadan tahay oo dadkii la dhacay qaarna la dilay qaar la barakacay maalkoodiina la dhacay waa dadkii Barweyne deganaa oo ayaan wala dilay maalba dhaweed anigu nabadoonka habar gidiro wala weyn jooga ana taliyaha saldhigga booliiska Walaweyn kan daraawiishta degmada iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ayaa maxkamadda u faahfaahiyay faldambiyeedyadan argagaxa leh ee maanta laga garnaqayo iyo sida ay uga falceliyeen markuu ugu horeyso 13 qofood waxaa ka horeeyay laba dhacdo oo ka horeysay 3 dhacdo waliba dhacdo waxay ahayd beer ay leeyihiin reer hubeereed oo sisin ku taalo yaa waxaa weeraray reer yaag Barweyne qolo milisyan oo ka soo baxay yaag Barweyne beertii dadkii joogay xabadeeyeen waxay sameeyeen beerta dhan boodkeeda wareegeeda dab ay ku qabteen wax alaal wixii xoolo meesha la arkayna way isugu geeyeen markaas ka baad yaa xoolihii waxay ka kaxaysteen 70 neef oo ari iyo loo isugu jirto falkaas markuu dhacay anagoo laamaha ammaanka iyo maamulka isugu jirno yaan ka daba tagnay beertiyan tagnay waa aan soo fiiranay waa soo laabanay nimankii beerta iska lahaan ayaga intay bixeen waxay qoonsadeen xoolo ari oo 124 neef ah waxay geeyeen tuulada Fulay la yiraahdo meeshii dhamaanteen anagoo maamulka in laamiye amniga aan qofna ka maqaneen ugu tagnay waxaan u sheegnay inaan xoolahaas la taaban karin ayna ka soo wareejiyaan
maamulka degmada iyo laamihii amniga wayna naga yeeleen way naga soo wareejiyeen howlihii dadkii iska lahaansiinay dadkii waxay noo sheegeen inuu howlo ka maqan tahay oo tira adiga 80 neef kuwaana waxay sheegeen 70 neef inay ka maqnaayeen maamulka dhan laamihii amniga aan fadhiisanay waxaan kala balanay inaysan hubeerna aysan gaaljeel ari ku lahayn gaaljeel nuusan hubeer ari ka lahayn oo inta maalintaas maqneed oo maamulka laga rabo aan dib isugu tagayn ilaamihii amnigii aan wareejinayn howlahaas aan naga laga rabo aan dawladda la soo tashanayn qabacdi waxaa dhacday ayadoo arrintii taagan waxaa dhacday haddan reer Yaagburin way soo baxeen waxay ka haysteen makiina agaf beer fasho imoot la bulgaadlay reer Dudumay ayagan way soo baxeen market aanu waday ka haysteen haddan reer Dudumay ayagan reer Hubeereed reer Yaagburin wayna soo baxay moot bahashan agafta beeraha fasho yay qaateen saddex oday oo moot la bulgaadlay wataana doontay waana ku darsadeen saddexdii qofood imootadii la bulgaadlay ahayd haddana laamihii amnigii iyo maamulkii sidii aan gurmad uga sameynay dadkina waan soo daynay agafta imootana waa soo celinay aygana gaarigii aanay saarneed waa u soo celinay waa ku kala wareejinay haddana dhowr beri ka bacdi reer Yaagburin way soo baxeen nin hubeer ah oo beer falanayo adii saddex qof ay ahaayeen yay soo weerareen mida kilid habad ka geliyeen oloosha ka soo baxday way laabteen oo meeshooda ay ku laabteen ninkii aan soo qaadnay isbitaalkan keenay anagoo laamihii amnigii maamulka anaga isla jirno ninkii aan daaweynay waa u yeernay ninkii joogay markaas maamulkana la joogay oo Yaagburin weyne xageedii ahaa waxaan u sheegnay ninkii kiiskaas watay oo ninka habad ku dhuftay oo magaciisa la yiraahdo Nagaar Tuuray reer Yaagburin weyne way ha maleesiyada ninka habad ku dhuftay ninkaas watay waxaan u sheegnay inuu baxo Yaagburin weyne tago Nagaar Tuuray oo soo qabto habsiga keeno gudoomiye ku-xigeenka maamulka ka tirsanaa oo reer Gaaljeel ah oo walweyn nagala tirsanaa waa tagay ninkii u tagay meeshii uu istaagay nagaarkay is arkeen adiga dadkii deegaanka dhan ka soo baxay hal nin la wadaayo walweyn la geynay ma jirto adiga la faaq iska baxaali waa noo imaaday asagoo faaruqiisa ah arrintii markaan su'aalnay laamaha amniga anagoo fadhino maamulkeena xafiiska degmada fadhino yaa waxaan su'aalnay maxaa dhacay ninkii aan ku dirnay gudoomiyaha aawe waab isla joogteen waa is aragteen ninkii maxaa u keeni weysay maxaa noogu wada wuxuu noogu jawaabay waxba kama wado aniga waxaan meesha ka su'aalay markhaatidayna gudoomiyaha uu fadhiyo gudoomiyow arrintan haddaan maalin walba intaa wax la haleeyo aan kor ka fiirino aan qofna sharciga loo horkeenin arrintan tilaabo laga qaadin dhibaata ka dhici doonta gudoomiyow arrintan u istaag naqo ninkii keenan haddii kale aan israacno labadeeni aan soo qabno wixii mas'uuliyad ka imaadan aan wada qaadano waa i diiday subax oo u dhuuntay xamar gudoomiyihii xamar markuu saan u tagay qolo kale aydan is abaabushay war la yiraahdo war Usmaan yay tageen daday aruuriyeen adiga tirada meeshana looga sheegay markaas warta waxa lagu dilaalay 13 qofood laakiin ma aan arkin aniga meesha waxa ugu tagnay anagoo maamulkii laamihii amniga ah inuu meesha dhiig badan yaalay hal neef oo arina meesha yaal horta intaanan warta aadin aniga laamigaan istaagay wax alaalo wixii meyd ah Yaagburin aan u tago aan soo fiiriyo sawir aan ku soo qaataan waa la iididay Yaagburin ma soo gali kartid ali waxaan codsaday mid in sawir la iga soo qaado oo la ii soo diro waa la iga diiday waa booqsanahay qof sawir ka qaadi kara ma jirtaa li laamigaan istaagay waxaan codsaday nimankii dhaawaga ahaa in baawur la soo saaro isbitaalka walweyn looga keeno dhaawaqii waa la soo qaaday walweyn markay soo istaageen waana loo diiday haddana in isbitaalka geeyno laba wiil aad ugu darneed dadka markaas la wadaan hindhayga ka arkay 6 qof ay ahaayeen 6 qof aan la waday dhaawac 6 dhaawac aan la waday 3 gaari oo barobox amin laba u saarnaayeen waxa waday reer Yaagburin oo Yaagburin baawur ka soo saaray markaan saa u fiirnay laba wiil ugu darnaa labadii aan ka codsaday in gargaar loo sameeyo isbitaalkan geeyno dibna hadda rabta aan diyaar u dalbi karno way noo diideen ma adaama gabdho wadeen arrintiina ay arrin buug ka dhacday ahayd haddaan markaas aan xoog ama farax la galno ama dhib kale meesha tiraba ka timaada hata oo naloo eensanayo waa fasaxnay ayadoo hamar gaarin laba dhinteen labadiiba waa dhinteen ayadoo hamar gaarin dhaawacii waxaa soo haray 4 afarta
hadda waxaan la soconaa inay fiyow yihiin horta anaga wax meesha aan ka aragnay intaas ahayd markaas ka bacdi way noo noqon weysay inaan meeshaan joogno meesha ma dhowa baabuuraan qaadanay ciidamadeenaan qaadanay waa baxnay waxaan tagnay meeshii oo falka ka dhacay waxaan soo aragnay hal neef oo ari ah waxaana loo sheegay inuu geel badan meesha ka dhammaaday ari ka dhammaaday hal neef oo ari ah yaan ka soo aragnay dhiig badan meel uu ka da xabadiyaan soo aruurinay saldhigaan keennay sawiradii videogii wixii aan ka soo qaadnay ee adeymihii yaa waxaa la wadaagnay madaxdii naga saraysay oo booliiska waxay ii sheegeen meesha in uu ku dhintay 11 qofood laakiin markii dambe markaan raacnay ay noqotay intana loo sheegay dadka number rabood uu gudbinayay raboodka ugu dambeeyay macquul amu yahay aan isdhahnay inay dadka meesha ka dhinteen ay ahaayeen 9 qofood labadii aan arkay oo dhaxda ka dhintay markii lagu daray 11 qofood ay noqonayaan laakiin qof dhintay oo miid ah aan kor istaagnay ma jirto wixii aan codsanayn waana looga diiday oo sawir ah hal in looga soo qaada waana loo diiday dadka inay ahaayeen 9 qofood falkaas geystay saddexna daraawul ahaayeen 6 qofna ay hubaysanaayeen 3 mootan ay wateen falkaas dadka geystay taas waxay ahayd taas markii dambe markay ka soo wareegtay adiga muddo adiga 2 toddobaad ama 1 toddobaad oo kale anigoo joogo Baydhabo oo fasax aaday yaa waxaa laga dilay ninkan owli baadidan oo yaa barweyn eerideeda asagoo habad lagu dhuftay oo naftana ku jirto yaa mooto lugta looga soo xiray waa la soo jiiday yaa barweyn la keenay markii la jiiday nafta ka baxday yaa barweyn markii la keenay asagoo miid yaa meesha la keenay markii dambe anaga ilaamihii amnigii meel walba anagoo iskaashanayno waxaa noo suurto gashay ninkii in la soo qaado oo looga keeno halkaas olooshan waa jeehneed gacanna waa ka maqaneed marka gacanta laga jaray oo argada lagu xiray olooshan waa la qalay dhagaxyaa la soo geliyay gacanta waliba inay tan bidixda eedan u malaynaa markii saan u yaalay gacan yaa ka maqaneed oo kumbut ah yaa ka maqaneed olooshan waa ka jeehnaa falkaas laba beri ka bacdi oo jimca ah anay markii warkaan dhacayba horaan ka soo orday habeenkii ticket diyaarada hata qof kale aan bariyaan ka reebtay maadaama meeshii uu boo kale uu ku dhacayo oo wax kale inay magaalada dhexdeeda ay ka dhacaan laga yaabo ay yaan soo orday markaan imaaday dadkii aan u yeeray waxa inaan magaaladan eerideeda qofna qof ka taaban karin wax qabiil muujin ama abaabulna meeshaan laga sameyn karin baabuurtan yaa gurweyn toos wadada u maraan idinkana aamartaan dadkii intaan sanfarnay wayna naga yeeleen magaalada gudaheedii wax dhib ama buuq oo ka imaaday ma jirin ayadoo 2 maalin ka bacdi aan joogo qodba ay tahay misaadka ku jirnaa waxaana loo soo diray qayladhaan in la qabtay qof ya meeshaan la yiraahdo gareeri lagu dilay salaadii aan galnay markaan ka soo baxnay waxa la yidhi waaba ka darnay waaba la gubay iska markii waa orodnay anagoo maamulkii dhammaanteen laamihii amnigii bartiyaan tagnay waxaan u tagnay ninkii oo wax yar ka soo horay welina gubinaay wax yarna ka soo hareen qof la joogtana aanan jirin kaligiisa ninkii aan dabkii aan ka daminay asagaa dhamaadayba wax yar ka soo haray ninkii aan sidii maamulkii aan ka soo qaadnay ku aasan arintaas markay dhacday waa soo baxnay magaaladii aan soo galnay magaalada markaan soo galnay waxaan aragnay meel walba oo video yaala oo la duubay oo lagu dul qaylinayo ninka dhagax ku dhufanay wax alaal wixii la arkay waxaan la wadaagnay madaxdii naga saraysay madaxdii markaan la wadaagnay amar waxaan nagu siiyay ilaa in dadkii meesha lagu arkay nolol igeerab aan ka keenay habeenkii aniga ugu dambeysay gudoomiyaha gobolka wasiirka amniga iyo taliyaha oo qadkiis kula jiro yaa waxay ugu amreen hadda intee joogta walweyn dhaqaaq 24 sano gudahoodii haddii dadkii dad ka mid ah oo falkaas geystay aad saldhigga keeni weyso adoo saldhigga ku jira aan kugu imaanaalay habeen ay tahay waa istaagay waa la bastay meel walbana waan wargeliyay in dadkii aan keenay gudoomiyaha la wadaagay wuxuu iga amray inaan shaqadii aan sii galno laamihii amnigii nala shaqaynay dhammaantood aan u sheegnay waa baxnay waxaan tagnay meeshii falka ka dhacay meeshii oo waxaan tagnay laga kala qaxay wax yar oo qoryaalay ah ay meel walba joogaan ayagana nagu dhuumanayaan waxaan
adeegsanayay oo ila socday talihii daraawiishta gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada falka meesha ku dhacay meeshay ku dhasheen dadka geysteen waa dadka ay ugu dhasheen si aysan ay kaligeey la iga dadin ayaga telefoon dadireen oo ay dhahan ma idin ma haysano saan waay inaan la kulannaan rabnaa inaan aragnaa rabnaa ogow waxaana la yiri aaw qof aan arkayna ma jirto waaga idin bariyo meeshii dadkii oo ugu muuqday sida ninka la yiraahdo beema oo kale sida ninka kale oo asaga dhinigii isla socday sida wadaadkan oo kale tuulo gooni ay lahaayeen oo tuulooyinka ka mid aheen yaan geesaska ka degnay toosha laga dhax ifinay waxaan isdhaanay aaw hadda gashaan habadaa dhici karto qof shacab wax gaari karaan waaga idin bariye ogow salaad subax anagoo salaadii ku jirno hal raqadood aan hal ii dhimantahay 7 madax la ii mariyay oo nagu bilaabatay xabad anaga markii waxaan u qabnay hog habeenkii waxaan soo gaaraysay ay nimankii hore ay duurkaas ku jireen ay soo galeen oo 12 dhowr qof laga eedaynay dhimashadoodii ay kuwii inta is abaabuleen ay sheegeen inaan taliyaha saldhig eeridaas soo gali karin hadduu soo galana la dilay ani ayaga u maleynay marka waxaan gudbiyay madaxda iga sareysay meel walba u gudbiyay inay nimankii xabad igu bilaabeen waxa la yiri wax alaal wixii dhinta moogi inta kalena ayagoo nool noo keenay waaga markuu toos u baray waxaan arnay ciidamo 500 oo geesaska naga hareeraysan oo habad naga socoto ayadoo habadii waaga markuu si toos u baryay nimankii dhinac ay isugu aruursadeen dhinac ay nooga baxeen ayadoo habadii socoto wili goos ay socoto yaa waxa soo istaagay labadan qofood ninkaan oo qoryahooda wataan maya horta kana noo imaaday kan ninkaana noo imaaday marka dhar aan video aan ka aragnay oo watay aniga ma garanaynin waxaan u yeeray gudoomiyaha arrimaha bulshada asaa ninkaan ninkii video ku jiray miya waa asagoo ina waa qabanay gaarigan saarnay habadina wili way dhacaysaa waa qabanay gaarigan saarnay ninka markii la falgalay oo la rafanayaan jaakad midoo u wateen jaakadii aan ku aragnay marka dadkii asaga la dhashay oo si gooni u xogay yaan u yeeray waxaan iri ninkaan ninkii miyahay waa asaga ay dhahay waa qabtay ayadoo wili habadii dhacaysa gaarigan saaray dhinaca u soo baxnay meel ay dad isugu badnaayeen saana u soo istaagay odayaal badan oo odayaal dhaqamaad iyo dada meesha ila soo istaagay markay ila soo istaageen haddana nin ila socday ninkaana inta ii soo istaagay qorgiisa booshkiisa wata ninkaan istaag kalar ninkaana inta ii soo istaagay markuu dhinaca ii soo istaagay nin ila socday oo asagana ay qaraabo yihiin yaa dhabarka iga taabtay ninka dhinacaaga taagan ninkii waa ani markaan saa u jeestay ninkii agtayda taagan dhinacaan u jeeday qorigaan dhabsay habadna wili way dhacaysaa waa qorigaan ka qaaday haddana gaarigaygaan saaray intaasi waa iloobay maalintaas oo aniga habeenkaas amarkaana la siinaayo galabtii ka horeysay yaa anigoo dhan meesha tagnay yaa waxaan soo helnay ninkaas iyo ninkaan ikaas kale ikan ninkaan dharkaan uu wato kulli hadda video waa ka aragteen asagoo meesha ninka lagu gubayo taagan yaa video ka aragnay markii dadkaan soo aruurinay asagoo wili shaatiga iska bedelin oo wato yuu nala soo istaagay aniga videogaan baaray ninkii markaan saan u fiiriyay waa ninkan waa soo qabanay intaan kala laakiin waxay noo sheegeen inay goobta joogeen oo tuuladaas qofba ka maqneen markaas meesha taagnaayeen laakiin gacantooda wax ka geysanin ay meesha taagnaayeen yay sheegeen dhammaantoodii ninkaana wuxuu noo sheegay aniga maalintaas ma joogin oon dhahay videogaan yaa wayaan dhahay sawirkaan soo adiga markaas wuxuu noogu jawaabay haddaad i sawirteen saan kuu sawiraynaa videogaan adoo ninka kor taagan ninkii aawaya dhahay had ninkii aawe adoo ninka kor taagan soo kan ma ihid waa iga aamusay kan asagoo shaatigiisa wato wiliba sawirkiisa ilaa hadda waa hayaa waxaan dhahnay sawirkaan soo adiga ma markaas wuxuu noogu jawaabay aniga ma aha maalintaas baadiyan jiray markii dambena wuxuu noogu jawaabay hadda dadka dhan taagnaa anigu waan taagnaa markaan sawirkiisa aan tusinay intaas markay dhacday labadan habadii ayadoo socoto qoryood wataana meesha ku soo qabanay limankan kalena ayagoo 5 ah maalinta ugu horeysay aan soo qabanay haddana maalinta noogu dambeysay oo saldhigga anagoo joogno yaa videogii markaan baarnay yaa waxaan ka aragnay adeer markaas wiilab nala taagnaa oo si fiican u kasaayay oo saldhigga ku tirsan booliiska lambarkiisa haay markaas ninkaan anaa lambarkiisa haay waa waanay intee joogta walweeno nala joogay markaas walweenan jooga way intee taagan tahay meeshii aadna ku soo qabanayaan ka keen marka asaga waxba ma qarinin
wax walbo markaan keenay wili video ka hayna wuxuu noo sheegay saaxiibadii ay ila joogeen inuu meesha taagnaayay ninka dhagax saa intuu u qaado ninka madax ugu dhufanay oo ag taagnaa asaga xataa uu dakhri lahaa asaga afkiisa nooga sheegay laba video saddex video aan ka hayna ninkan asagoo ninka saa u jiifo nafta ku jirto lugihiisa fadhiyo oo wareysanayo video waa laga hayaa ninka asagoo lugaha markii lagu dhufanayo godka madax looga istaagay asagoo hortiisa taagan oo qorigiisa wato oo hor taagan video-gu ku jira oo ninkan adeerka ah falka meesha ka dhacay horta wuxuu ahaa kaas aan dadkan ku soo qabanay waxaan raacaynay maadaama falka uusan magaalada ku dhicin nin walba aniga waxaan ka soconay oo maadaama haddana dadkana si gooni ay baadiyada warkaas uu ku dhacay oo dhibaatada ka dhacday nin walba meeshaan ku aragnaa taargeedigi noo ahaa waxaan weydiinaynay ayaga nin kamid ah ninka ma taqaan ninkan hebel la yiraahdaa kan ma taqaana hebel la yiraahdaa kan habadaan ugu istaajinayn dhamaantoodna wuxuu noo sheegay adeer inuusan qof meesha ka maqneen laakiin ninka uusan habad lagu dhufanin oo dadka sidii bud loogu dhufanaay oo masaar loogu dhufanaay oo dhagax loogu dhufanaay oo nafta ka baxday intaas uu noo sheegay asagana hadda waa kana hal habad laguma dhufano dhahay dhagax bud masaar intaas la lagu dilay dhahay laakiin sababta ay ayaga lahaayeen sababtoo ah ayaga soo waday oo shacabkaas dhageeyay askartaana soo waday dad qoryaaladii ah yaa soo wadeen oo asaga uu koow ka yahay ciidankan waxa taliye u ahaa nin abshir la yiraahdo adig saddexdaan qoryay wadeen afar kale oo hadda maqan inta aan meesha ku aragnay afar kale maqan had nin la yiraahdo Biima nin la yiraahdo Bakar ma Barrow nin la yiraahdo Jamaal iyo nin la yiraahdo Abdullah Garan Maldan afartaas maqan ninka ushka garaacayo ninka ayaga waxay ka soo qabteen meelahaas habaday guriyeen uu ku cararay war uu dhaxgalay biyahay ka soo dhaxbiyeen way garaaceen ayaga shacabka dhaxgeeyay ilaa bilaa dhamaad adeer waa la socday kama xarin meel wala video-gaas uu ugu jira hadalkiisi yay fahmi waayeen anay wareysi la igu yeeray laakiin ninka markii warta laga soo saaray oo la legdaayo oo madax looga istaagay oo fadhiyay oo ninka oo hay wili haddana asagoo baraalaati ah oo dhulku ku dhacay oo nafta ku jirto aan hadli kadin oo hadal lagu dirqinaay lugihiisa soo fadhiyay haddana asaga wareysanay video-giibu ku jira waxna uu ogyahay wax walba marka fadhaadada meesha ka dhacday waa taas eelka arintiisi waxa u dhacday 2 maalin ka hor yaa wiil krishboy ah oo eelka joogo yaa niman Maleesiyaanka waxay dhaheen waa ka haysanayna nimankan waxay dhaheen ninka eelkaani uu joogo lama ka xin karo waa ka xina waa la isku dhacay ko Maleesiyaanka midaa ku dhaawacmay gacan ana wacay nin la yiraahdo Aliyariis yaan wacay waxaan u sheegay aliyo wax falka meesha ka socda maxay tahay arintaas waa daba galnay wiilkan aanu istaafkayga ahaa anaana daaweysanay dadkan waa hal marinay oo meesha laga weeraray wax dhibana ma jiraan weeyna 2 maalin ka soo wareegtay ninka la yiraahdo marxuumka dhintay oo ilka asal la yiraahdo wuxuu u tagay habeen iyo eelka tagay nin waardi ah abdimidoow la yiraahdo isqabteen wuxuu dhahay Allah aduu leeyahay iga tag hadayga meesha marka dhibaato ma dhicin waa ka soo tagay subaxii uu ku laabtay meeshii ku laabtay wiil abdimidoow waardi 9 saac ka wareejiyay oo meesha fadhiyo yay murmeen sidana loo sheegay kan qoriyo furtay waxa xabad mariyay marka uu bilaabay wiilka eelka joogay saacadaymi aan baarnay aan ku helnay ninka ilkaas marxuumka dhintay xabada ku dhacday asagoo dhacay oo si xiilay xabada kale u firdhiyay asagana shacab ah oo la yiraahdo magiisi hadda inaan liiska ka baaray noqonaysa oo shacab asagana xabadii ku dhacday kanna waa dhacay kikal xabad ma gaarin marka oo eelka joogay dadkii soo ordeen meeshii la isugu imaaday labadii miid baa la soo qaaday kii oo wiil kale reer barbaara oo wuxuu ah reer daafeed ah gaariyana loo soo saaray saldhigan loo keenay mid kalena waa la soo qaaday magaalada la dhigay magaalada markii la dhigay kooxdan oo Maleesiyada oo baasleyda inta degan oo magaalada afkeeda degan yaa loo imaaday waxa la yiraahdaa daraad waxa la xabad lagu dhuftay wiilkaas haddana ilka asaa la dilay inta lagu dilay eelka lagu dilay ayaga marka midig ma baleehan say u socdeen eelkay weerareen oo guri intay soo jabiyeen oo soo dhaxmareen dhanka kale ka soo galeen wiliba eel saasa eelka habadiisa ka bilaabatay waxa meesha naf ku waayay 4 kale waxa ka dhaawacmay 5 qofood
waa tii aan isla taagneen oo aan telefoonada meel walba aan ka doodaynay ahayd markaan wacnay oo aan kala hadalnay anna aan la hadlay adna aad la hadashay oo la yiri habadii jooji ma aysan joojin ilaa dadkii ay ka dhamaadaan meeshii aadnay markaa tagnay ninkii meeshu gubsan aragnay ninkii aragnay adabaara galbiga galabtii ahayd markaa meeshii tagnay ninkii aragnay kadib waa baxnay tuuladii tagnay jabaan iyo darina soo qaadnay ninkii god u qadnay waa soo duugnaa soo laabanay maalin labaad aan baxnay degmadii aadnay meesha oo ninkii lagu gubay dad fara badan oo soo qabanay awraysan qaar ka mid inta ku jiraan bad inta joogaan degmadii keenay maalin labaad habeenkeeda anagoo howlgal ku jirno nimankii ninka goobtuunkeeda ku jirno anagoo meesha anigii taliye israacnay gudoomiye arrimaha bulshada meesha aan aadnay nimankii hoosh aan ku jirno xilli salaas wax ay tahay aan soo weerar noo soo bilowday wixii ka dhacay meesha xabada ka dhacday nimankii gadaal ay ordeen waa soo laabanay yaa ku soo qaban markaa 3 qof kale ya niman gaajacay soo weerareen dowladii anaga barnaamijka aan ka fulinayn hoosh aan ka wadna been ahaantaas saas waxna soo weerareen markaan nimankii xabada meesha ka dhacay nimankii way jabeen 3 qof kale soo qabanay waa keen degmadii keenay ninkii la gubay marka oo la gubay qof bini aadam ah ninkii macaa jiridiisii food ma sheekay ninkii oo la dilay oo lagu waa maqlabas agartan aan ku baxnaa anagana jirid banaanaha ka maqla laakiin jiriis ma sheekay fiyawnti ma sheekay ilaaha og dadkii hoosha ku sameeyay asiga ilaahay isoo inuu jirna inuu xanuunsan maqla laakiin ninkii in la dilay oo la gubay aan maqla waan ku baxnaa arinta kale ka hadistii suuli oo malayna suuli xilli aan lisoo magacaaway nin muxuu ahay baadiyo ku rojirha adhaa ka gari dhaxdana joogay marka nin anaga xukumayna ma ahayn maqaranta isku sheego waa lisoo magacaaway maanta soo magacaaway way imaaday maxaa dhaniyo daraawish ay soo magacaaway saddexda cunug kula jirto iyo macal adiga daraawish ku soo feela meeshan qof aan ciidan qof kale ma joogay way hadal diiday woo baxay duurka ruusi gala meel shabaab markas imaado oo shabaab xukumo waay ilmo oo yiraahdo ma jirto saddex cunug ma soota saddex cunug wala taga saddex cunug ma iimaan kaligiisa ay imaado bas saddex cunug wala tag duurka la gala daraawish kama dhahan saddex asal daraawish kama dhahan daraawish ma iimaan wiis oo ma iimaan daraawish asiga daraawish inuu soo daray xilli hore daraawish kama dhahay suuliga markii asiga aan soo daray oo horiyo kama dhahay jiray aqdi markii li soo magacaabo marka aan u waayeen la saddex cunug la wiilkeen aan dhahay meeshan ciidan ku soo feel aan hayna way hadal diiday saddex cunug oo duurka la gala dambana isma waayeen mana iimaaneen asiga ma sheegi karaan iimaantaas ku kay dambeeyaan asi ma sheegi karaan maadaama aad daraawish ku deegaanka tahay in ka lagu kala madidin staff oo wato wala soo ka dhaqaaqaysa oo saliga adoo qofka ku yeesho ma lama soo dhaqaaqaysadani dhaqaaqas lama socdo maana soo kay dambeeyaan deegaanka markuu soo galo maxaa sameeyay asiga deegaanka soo gaarsiin ma sii baxay deegaanka ma soo laaban ma soo laaban deegaanka ma iimaan maanta ana arkeen isku kay dambeeyaan asi mar dambe deegaanka ma soo laaban wala haka waan iimaanin gareer ma iimaanin ilaa hadda ma sheekana qofkii dilay anaga ma 45 kilomitir noo jirto waay mana sheekan hebel dil ma dhiig qof dil ilaa hadda hebel aan dhahay kar ma jiro qof hebel dil dhaha ma jiro aan dhahay kar ma jiro marka ma maqal waxa meesha marka tagtay ma maqal adigu inay dilay suuli ma maqlin waa soo qabanay ninka warta joog jira oo warta la hayo soo qabanay waxba nooma sheegin qofka oo duubanay naaga soo qabanay meesha maqaayada ku shidaadeen waxaan dhahay nimankaas ma arkin mooto ku umaadeen afkaan u duubanay hebel ma dhihi karno dad waxa leeyahay maya ma maqlin maadaama taliin daraawiishta amniga la qaabsan saddex iyo toban qof hal war lagu degmadii adiga amnigeeda qaabsan aamudi eeriyada lagu dilaayo waa taxaa adiga taliye amniga ahaan hadda waxa taagan tahay ma aqaan wax dilay bal noo sharax waxa ku dafirayso markaas dilay waxaan aan ogeyn ma sheegay waxa oo sheegay markaa amniga yaa qaabsan amniga ana qaabsan yaa dilay marxuumiinta 12 ka meesha 45 kilomitir noo jeeda meesha amniga sheegay anaga ma xukunno wax dilay ma tahay wax dilay ma aqaan hebel ma dhihi karo suulay ayaa dilay markaas meesha u dhintay suulay adiga soo ma xukunno xagaan baa sawirka goorma sawirkee sawirkan ciidankan fiirshan waqtiga xilka lagu wareejinayo Soomaaliya
suuley maanta isku kaydameen maanta laysoo magaca horey ugu sheeg mogtaani horey ugu sheegaani أنا أقول شيء مقتل مية مع شيء سوليا سوليا سوق شيء ما عندي كو حق اللي هو وريجي أنا سكوي دمي أقول هاي قول قاسة تقني عينك أقول صفر هاي وين بديني هرس كباحي أنا أقول محكوم جريمة كان مشيكر دمي أفرت شن كانوا مش مترو مجلس واتقني وابدنا ناس واسطة قبط nin ayaa degmadii adiga amnigeeda qaabilsanay lagu jarjaray lagu jiiday mooto lagu gubay dambiyadkaas yaa geystay ninka ugu dambeeyo la gubay nimanka yeeleen waa niman tuulada macalisday ah oo nimanka gaajo isdagaasanaayeen oo difaac meesha ugu jiray nimanka yeela anagana ma xukunno ciidankaas waxa dadkaas guud dad shacab waay shacabkii deegaanka waa wax dadka guud maya intuu tuuna loo soo qabtay kana falku jira kuma dhiga intuu tuuna loo soo qabtay wax ku jira ma qof falgeystaa oo aan ogaay oo hebel aan ahayaa ma jiro tuuna loo soo qabtay intooda wallahi cidii dish hebel waa ma dhigi karntaas si ilaahna loo iloos meesha waa tagnay dhacdada ka dhacday maamulkii ilaamaha amniga isla wada jirna waa soo wada aragnay way ka muuqdeen waa telefoonada dhantii lagu wada tuuray ahayd waan sida wada aragnay oo dilka iyo gubka meena kala saar gubka dadka geestay dadka oo hadda neekata ay ka muuqatay meesha waxaan maqlay in waali lagu tilmaamayo aan maqlay waa ka inaa kor tagay aan ma xaqiijin ma la hadlin mana arkin ilo sigoo geeri ah oo guban aan meesha ugu sii tagnay miday abshir dhahaan barow miday dhahaan mid biim ay dhahaan حسن بول نكانا فيديو إيجو ورئيسنا وجيدو دل أركينين واركا مركب لك بدوما حسن بول وقاري بوتو من عيسو بتاعه لا لازم داهر يسار تكسر مش أو فلك كداي لو دام قريب بتاعه ku-xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanla dhexe Axmed Cabdalla ayaa maxkamadda ka codsaday in dhammaan eedeysanayaasha ay ku xukunto dil toogasho iyo in maxkamadda ciidamada ay xirto taliyaha daraawiishta degmada Walaweyn oo lagu eedeeyay inuu qarinayo mid ka mid ah maleeshiyaadka 12 qof ku dishay deegaanka warta Cismaan ee degmada Walaweyn waqtiga ay nasiisay way ku maasan tahay maxkamadda sida ay u kala joojisay colaadihii meesha ka soo socdayna maxkamadda way ku maasan tahay kala dhaxgalka ee kala dhaxgashay dadkii deyriri rabay ee walaalaha ahaa maxkamadda way ku maasan tahay haatanna maxkamadda kiiska u soo gudbinay waxa ka filaynaa cadaalad inay ka gaari doonto oo ah eedeysanayaasha maanta maxkamadda horkeena iyo kuwa maqanba mudane gudoomiye kiisas kala duwan meesha ka dhacay kiisaska waxay ka soo bilowdeen bishii 9aad 27keedii nin la yiraahdo Suuley oo shabaab ahaa oo sida shabaabkii camal gafuurka u soo duubtay ayaa wuxuu laayay 12 qof oo laayay 7 qofna wuu dhaawacay mudane gudoomiye Suuley fakad waaye maqna waaye laamaha amnigu waa ku raad joogan waarankiisana waa jiray mudane gudoomiye Suuley markii falkaasi uu sameeyay kadib waxa ku soo xigsaday sida musalsalka camal Suuley dadkii uu laayay niman iska dhigay inay maxaa la dadkaas ka damqadeen camal oo uu kamid yahay nin liidaado Ali Riisow nin liidaado uu kamid yahay oo yaqbar weynadaas durkeeda ku dhuumaaleysanaayo ayaa asagana wuxuu sameeyay faldambiyeedyadaasi maxaa kamid ahaa marka nin liidaado waxa la dilay Cismaan Owliya la dilay caloosha laga baxay gacan laga gooyay kadib maxaa ku xigay waa la soo baxay nimankaana hadana waxay dileen nin maskaxda loogu jiro oo 33 sano waalana xanuunsana oo cadeen aan u hayno oo meesha ku xirnaa meesha ku daaweynaa la yaqaano ayay soo qabteen waa jarjareen dab ayay qabadsiiyeen nafta ayay ka qaadeen waa jarjareen kaliya waa jiideen xataa wax walba oo foolxumaa ay ku sameeyeen mudane gudoomiye dad eedeysanayaashan iyo kuwa maqanba heer ay xataa lafihiisa markii ay karsadeen lafihiisa ay ku dhedheelaan ay bilaabeen mudane gudoomiye waa fal aan weligeed ka dhicin Soomaaliya waa fal ugub ah waa fal xataa dadka aan Soomaalida ahayn inagu caay karaan
waxa geysanaya waa eedeysanayaashan iyo kuwa maqan mudan gudoomiye suulay 12 qof oo horta dilay eedeysanayaashani waxay dileen inay dileen oo xanuunsan oo dhimirka looga jiro ee jarjareen oo gubayna suurad xumeeyeen Ali Yariis wuxuu geystay nin la yiraahdo Usmaan Ooliyen waa dileen ceel meeshaan ku yaalana waa gubi 4 qofna uu ku dilay ceelkaas 5 qof oo kalena uu ku dhaawacay asaga iyo maleeshiyada hogaaminay suulay iyo maleeshiyada hogaaminay 12 qof oo dilay intaan iyo kuwa kale maqanayaala oo cadeemahooda iyo sawiradooda iyo waxa dhinac soo bandhignay inay gubayno isugu tageen hal nin oo dhimirka looga jiro hal kood xitaa waa ka roonaan waay hal xabo oo loo naxariisan karo mudan gudoomiye kuma jiro sidaas darteed mudan gudoomiye bacdama soo bandhigay cadeemo marag muujino muuqaalo dambi muujinadii hubkii ay haysteen falka ay ku geysteen maadaama soo bandhigay maadaama uu kiiskan u cadiya si clear ah mudan gudoomiye si fool xumaas magaca Soomaaliyeed magaca islaamnimo magaca degmadan wala weyn ay ku dheelayaan waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa in eedeysanayaashan iyo kuwa maqanba ay ku xukunto dil toogasho ahna qisaastii marxuum Isaaq Daawud Maxamed sidoo kale maxkamadda sharafta leh waxa ka codsanayaa ninka la yiraahdo Ali Yariis Ali Isaaq Guuleed ama lagu naaneeso Ali Yariis Fuad Ahmed Maxamed Ismaan Nuunow Ciise Cabdi Maxamed Canan lagu naaneeso Xuseen Maxamed Qaasin Maxamed Gani Xaraash Daami Shigshigow Xuseen Gaabow Xasan Goobe Isaaq Daawud Duqow dhammaan maleeshiyaadkii 40 nin ku dishay ceelkii gubay Ismaan Ooliyen dilay in ay maxkamadda sharafta leh ku xukunto dil toogasho ahna qisaastii dilalkii iyo dhaawacyadii iyo falalkii gubidda ahaa ee ka geysteen tuulada Dudumay iyo yaqbari weynaba ay ka geysteen darteed ay ugu xukunto maxkamadda dil toogasho nimankaasi waa ka nasal la magaalada tuulada Dudumayna ma dhaafin yaqbari weynana ma aysan dhaafin maxkamadda sharafta waxa ka codsanay inay dil toogasho ku xukunto waarankoodana uu jaran yahay sidoo kale mudan gudoomiye eedeysanayaasha 12 nin dilay ee lagu kala magacaabo Yuusuf Aadan Xuseen Suulay Cabdullaahi Madyarow Ismaaciil Maxamed Abuukar Siid Cali Cabdalla Cali Maadi waarna maxkamadda u jartay 12 qof oo shacab ah oo aan wax ka galabsanin oo xoolo dhaqato ah xoolahooda dhaqanay ay dileen mudan gudoomiye todoba kalena waa laayeen waxa kale oo mas'uuliyadda kale ee gadaal ka dhacday ayaga mas'uulka mudan gudoomiye Suulay markii uu dhuuntay oo fakaday abshiro meesha uu sii dhiibtay saadateed mudan gudoomiye waxa maxkamadda sharafta la ka codsanaya dhammaantood in lagu xukumo dil toogasho si ay shacabka Soomaaliyeed u kala badbaadaan mudan gudoomiye sidoo kale mudan gudoomiye waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanaya Suulay iyo ninka leeyahay abshir yaa xukumo waxa xukumo taliyaha mas'uuliyadiisa uu gudan waay dada meesha la laayay kuwa la dilay gudoomiye taliyo uu yahay inuu sheegal rabo yiraahdo Suulay ay geysta falkan inta yaa dadka gubay abshira mas'uulka intaas dad uu hiili waay xataa muxuu qabanaa markuu ay taliyo ka yahay taliyaha ninka mas'uuliyadda loo dhiibay waa inuu dhaxdhaxaad ahaada laakiin hadii dhinacaaga aad la safato mas'uuliyad ma qaadi kartid wuxuu yiri hadda ninka la yiraahdo Suulay aniga ma xukumo maxaa soo bandhigay maxkamad maxaa soo bandhigay markii xilka uu la wareegay dadku uu la wareegay ku jira Suulay sidoo kale ninka la yiraahdo abshir sa xukumo sidoo kale ninka la yiraahdo ii sheeg ninka hadda u dambeeyay aan weydiinay ee gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada aan ku qabsanay asagoo la socda soo xukumo macnaha mar hore iga tagay yiri waa been shalay oo la socday gudoomiye maxkamadda soo bandhigi kara sawir shalay la galaa soo bandhiga shalaydan la socday yoo ku jira ninkaas ma taqaana mudan gudoomiye dadkii 12 dilay ku jira mudan gudoomiye ilaahay ma laga cabsado mudan gudoomiye in alla laga cabsada fiican xilkaan ahaysid iyo mas'uuliyadan u haysid si ilaahay kula ogyahay oo guutaan raa ma guli ka tilmo oo qabyaalada ka badan qabyaalada kugu Soomaa iska dhig toos ula safadin akalno Suulay garbkiisa tag ma aha qaban nimankano adduun waxaan la weydiin aakhir waxaan la weydiin mudan gudoomiye waxa maxkamadda sharafta ka codsanaya in taliyaha daraawiishta xilka laga qaado nimanka uu difaacayo oo abshir oo Suulay oo ninka hadda staafku ahba haduu soo xiri waayo oo isla hadda soo xiri waayo in booskood asaga lagu bedelo oo asaga maxkamadda ay xukunto in xilka ay ka qaado in nimankaas hadda keeni waayo hadda staaf uu yahay ninka sheegoy 12 ninka dila waayo staaf uu yahay mudan gudoomiye hadda keeni waayo mudan gudoomiye booskiis in asaga lagu bedelo asaga uu qaato mas'uuliyadeeda oo asaga lagu xukumo maxkamadda sharafta leh waa mahadsantahay qareenka eedeysanayaasha Abuukaate Hanad Khaliif Shalaqbeen ayaa duray eedda xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida isagoo bari yeelay muwakkiliintiisa una codsaday in la siiyo xoriyadooda mudana gudoomiye xafiiska xiraalinta waxa waajib ku ah
marka hore in uu iswaafajiyo falka dembiga iyo natiijada meesha ka dhacday sida uu qodobka 110 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waa inuu u cadeeyaa si aan shaki ku jirin ma dhacdo maanta ma dhicin xeer ilaaliyuhu wuxuu halkan la yimid oo project u soo diyaarsaday waxaan ku tilmaami karnaa waa khayro iyo sheeko sababtoo ah asoo khayraysan uu noo sheekay madow gudoomiye meesha waxa ka dhacay fal dil anagu ma diidanin inuu dhacay dil la dilay marxuum Isaaq laakiin Isaaq yaa dilay Isaaq ma rag maanta halkan taagana dil waa may waxa dilay oo xeer ilaaliyuhu uu halkan ka sheegay liibaan abikir oo biimo inay Cabdifataax Geesdir awe maragana ma ah oo biimo Geesdir waa rag liiqaano waxay joogaan Dumay waa ragii soo qabtay dilay jarjaray gubay waxa lagu haystaa nimanka odayaasha reer miyiga ah masaakiinta ah xeraaliyuhu ma keen cadeen muujinayso ama uu dhahayo daahira dilay Isaaq dilay Xasan dilay Maxamed dilay ma keen uu noo sheekay xeraaliyaha sheekada social media dhex taalo ee ku saabsan dilka marxuum Isaaq iyo xeraaliyuhu maanta wax uu la soo shirtay waxba kuma kala duwana sideedan markii maxkamad loo taagay mudan gudoomiye waxa loo baahan yahay waxa lagu doodo inay noqoto qodob qaanuuni ah ama xeer ama aayad quraan ama xadiis intaas kuma doon xeraaliyaha uu noo sheekay oo kuma san yahay si qiiraysan oo Soomaaliyeed ku jirto loogu hadlay mudan gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh caadiyan qofka Soomaaliga ah markii ay dhibaato dhacdo tilaabada ugu horeysa uu qaada waxay tahay inuu tago goobtii falkii ku dhacday muwakkiliinteedu maxkamadda horteeda looma keenin wax dhaafsiisan in ay goobtaasi tageen ninka odayga macallin waay asoo yaaban oo masaajidka soo buuxuu yimid goobta uu dultay xaraali wuxuu yiri waa kaasa uu dhaanteena muxuu dhaanteena way yaabaya meeshuu tageen waxa ku soo Xasan Buule waa oday nabadoon beeril ah qori uu wato waa RBD waxa ku jirta laba baalood buuqi markuu maqlo soo baxay wuxuu isku day inuu ka celiyo oo biimiyo la taageen wuxuu leeyahay ninka oday ka daaya waxa loogu dhigay inuu dilay lama keen Xasan Buule shacabku u dhafnaa lama keen Xasan Buule gubay lama keen qodob ugu weyn lagu soo eedeeyay waa 434 waxa loo siraacay 71 oo ah wada jir macnaha si wada jir ah aad waxaad u disheen marxuum Isaaq Daawud mudan gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh hal cadeen ama marqaati nool oo maxkamadda horteeda ka marag furi karo inay marxuum Isaaq Daawud dileen muwakkiliinteedu looma keenin sidoo kale gudoomiye xeer ilaaliyaha iyo taliyaha saldhiga waxay halkan ka hor cadeeyeen in la yiraahdo Suule inuu yahay qaatilka ugu weyn dhibaatada geystay Suule hadda waa kuma Suule wuxuu ku tirsan yahay ciidanka daraawiishta laba bil kor waxa lagu wareejiyay taliyaha daraawiishta oo ninkan ah taliyahana mas'uuliyadda markuu xilka la wareegay waxa kamid ah ciidanka agabka saanada iyo goobta inta uu la wareegay magaalada Walaweyn waxay mudan gudoomiye waxa joogo in ka badan 2 guuto ciidan xoog dalka ah ciidan daraawiish ciidan booliis mas'uuliye oo bima laga soo qaaday Dumale waa may siyaas darteed si waafaqsan qodobka 115 waxaan maxkamadda ka codsanayaa in la baabiyo anagu markasto ma diidin in cadaalad loo helo marxuum Isaaq Daawud laakiin sax ma aha cadaaladu meel aysan jirin in la galiyo صح ما العدالة الإعداء كل ذي الحق حق قف كستوا إن حق هذا الشيء sidoo kale mudan gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh maadaama xeer ilaaliyuhu uu ku guul dareystay mas'uuliyadii uu xeer ku saaray waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa in la cuskado qodobka 112 xeer hab ciqaab Soomaaliyeed oo lagala noqdo eeda insufficiency de la prova lama keen cadeen la'aan awgeed maxkamadda sharafta loo imaasantay garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo wada tashi dheer yeeshay kadib ayaa amray in la xiro taliyaha daraawiishta degmada Walaweyn Dabla Saleemaan Maxamed Yare oo gabaad siiyay eedeysane Maxamed Aadan Ibraahim Nuunow kana mid ahaa maleeshiyaad 12 qof oo xoolo dhaqato ah ku dishay deegaanka Warti Ciise ee duleedka degmada Walaweyn isla markaana ka fakiyay laamaha amniga iyo hay'adaha cadaaladda Saleemaan waa xiran tahay ilaa aad ka keenayso ninkii askariga ka keenayso askariga u yar noo kan Cabdiraxmaan Gacan warbaahinta qaranka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose